kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba dadka dunida dacaladeeda naga daawanaya kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii dood wadaag oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka Universal. barnaamijka caawa waxaan si toos ah idinkaga soo gudbinaynaa caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. sidaan ula socono laga soo bilaabo sanadkii 2012 dalka Soomaaliya waxaa laga dhisay dawlad federaal ah oo la filayay muddo 4 sanadood in ay dalka wax weyn ka bedesho iyadoo la ogsoon yahay in qorshuhu ahaa in dawladdaasi ay dalka gaarsiiso qof iyo cod si dadka Soomaaliyeed ay u helaan nidaamka dimuqraadiyadda anagoo og muddo ka badan 20 sanadood Soomaaliya in ay ka jirtay dawlad la'aan amaba dadka Soomaaliyeed aanay helin dawlad hanata hanaankii dawladeed ee looga baahnaa. saan ognahay 4 sanadood ee dawladda federaalka ee Soomaaliya la siiyay in ay gaarsiiso qof iyo cod waxaanu la soconaa in 3 qaybood oo waaweyn ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka koobnayd iyadoo laga filayay in hanaankaasi dalka Soomaaliya la gaarsiiyo. saadun ognahay qaybta koowaad oo ahayd qaybta dejinta sharciyada oo ahaa baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybta kale ee ahayd xukuumadda iyo madaxweynaha. 3 qaybood oo muhiim u ah xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya 4 sanadood loo idmaday waxaanu la soconaa in 3 qorshe oo waaweyn ay hor yaaleen iyadoo 3 qorshana ay ahaayeen hirgelinta federaalka iyo dhamaystirka dastuurka iyo sidaas oo kale sidii loo sameyn lahaa nidaamka dimuqraadiyadda oo marka dambe qofka Soomaaligu awood u yeesho in ciddu uu doono uu doorto. saan la socono barnaamijkan doodwadaag barnaamijkii ka horeeyay waxaanu nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo si aad wax looga weydiiyay higsiga 2016 ama qorshaha siyaasadeed ee la doonayo marxaladda hadda la joogo in laga baxo. waana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay wada tashi buuxa in la gali doono. haddaba barnaamijkayga doodwadaaga caawa waxaanu ku martiqaadnay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo aad xoogaal u ah xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya. waxaanu ku eegi doonaa qorshaha 2016 baarlamaanka Soomaaliyeed doorka uu ku leeyahay iyo caqabadaha hortaagan baarlamaanka Soomaaliyeed. waxa barnaamijka caawa igala qayb galay oo ila fadhiya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya muddo aad u fog isla markaana hore u soo noqday wasiir horena u ahaan jiray maareeyihii wakaaladda murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya. waa nin si aad siyaasadda Soomaaliya looga yaqaan isla markaasina qorahdiisa ama hadaladiisu ay si weyn u cad yihiin. sidaas oo kale barnaamijka doodwadaag caawa waxa igala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed muddana baarlamaanka ka soo tirsanaa isla markaa hore u ahaan jiray wasiir si aadana looga yaqaan siyaasadda Soomaaliya marna soo noqday ra'iisul wasaare. waxaanu la soconaa in Maxamed Cabdi Yuusuf uu kamid yahay xildhibaanada sida weyn siyaasadda Soomaaliya oo la socda. waxaanu ku martiqaadnay barnaamijka inuu nagala qayb galo sidaas oo kale dad dibadaha ka yimid oo aqoon-yahana iyo dad badan oo Soomaaliya oo qaybaha ururada bulshada ka tirsan arday jaamacadaha dhigata iyo qaybaha kala duwan ee siyaasadda danaysa ee Soomaaliya. dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka doodwadaag. marka hore sidaanu la socono waxaad ka mid tihiin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. waxaan la soconaa muddo 1 sanadooda inay ka harsan tahay xilligii loo idmaday dawladda federaalka ee hadda jirta in ay gaarsiiso dalka qof iyo cod. saan la socono waa adag tahay dalka Soomaaliya in dib loo soo xulo ama baarlamaanku ay soo xulaan 135 oday oo hore baarlamaanka hadda jira u soo xulay. sidaas oo kale waxaanu ognahay in ay adag tahay in qof iyo cod la gaaro sida xukuumadda dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta dhamaantoodba ay sheegayaan. xukuumaddii ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu hogaaminayay doodii ugu dambeysay waxaa oraahda ugu dambeysay ahayd shacbiga amaba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lala tashan doonaa wajiga uu yeelanayo higsiga 2016. dad badan oo Soomaaliya si ay wax uga ogaadaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in roolkii looga baahnaa ay weli dhiman tahay sidii ay u hirgelinayaan. waa maxay kaalinta baarlamaanku oo ku saabsan hirgelinta qorshaha 2016? waxaan ku horeynayaa xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf. bismillaahi raxmaani raxiim. salaam haya dadka jooga halka caawa isugu yimid
سلام كبعدي waxay ila tahay Soomaalidu waxay tiraa waxaad og tahay kugu celiyo soo sheeg mataqaana waxaan macnaheedu bay noqonayaan waxa weeye sida aad hadalka u sheegtay waxa weeye arinta hadda taagan waxa weeye 2016 doorasho ma dhacaysa ama ma dhici karto waxayna u badan tahay ama u muuqatay inaysan dhici karin waxaana sabab waxa weeye wax kala ma aha bini aadamku waxay ku nool yihiin waxa weeye waxa ay dhigtaan oo ayagu markaas ku dhaqmayaan inay dhowraan hadday ka leexdaan oo waxyaalo ka gedisan oo wax shakhsi ku dhisan la raadiyo waxay noqonaysaa wixii in mataqaan lagu fashilo ama meeshii la rabay aysan marin dalku wuxuu leeyahay dastuurku meel gaar ah oo wali dadka afti laga qaadin laakiin lagu sii dhaqmayo iyo dawlad jirto rasmi oo la doortay oo xildhibaanada iyo xukuumadda iyo madaxweynaha la doortay ayuu leeyahay ayagana mas'uuliyadaas kala inay mataqaanay taqdiidka loo dejiyay oo waqtiga la sheegay oo la cayimay inay ayagu dadka gaarsiiyaan oo marxaladii ku haboon ay mataqaan gaarsiiyaan ab doorashada ha timaado ama ayeenay imaani wixii kale lagu bedeli karo inay keenaan waa laga tilaabsaday arinta iyada madaxweynaha iyo maamul goboleedyada niman madaxweyneyaalka sheeganaya ayaa gaar u shiray waana aad oo ah غير دستوري وي قال بأشيرين دلت بي لبحين دلت ده متقنا يلبحين أنا يعني شقوي كقبانين international community مالها جوجنا وأويرتين ونلي هو نيكولاس كي سفيرة مالها جوجا شرر بحمر مقبصة دستور كينا ويا لا institution كي الدولة دلكو إدمدنا ويا لا وحكى لما يلو قبصة أنا لا قصة صار شقوي كلا لا قبصة waxa weeye dastuurka hadda jira waxa weeye shaqada waxa ka dhaxaysa waa xukuumadda iyo baarlamaanka xukuumaddu inay soo barboos gareyso waxa ay ku haboon tahay waxa la yeelahay 2016 dawladda baarlamaanka ay keento baarlamaanku marka inuu ka doodo baarlamaanku marka go'aanka wixii la sameeyo ka gaarayahay waa la leexshay wada kala loo leexshay oo loola leexday baarlamaanka waa la garab maray xukuumadda waa la garab maray madaxweynayaal goboleed niman sheeganaya iyo mataqaanay waliba sharciyad aan lahayn intooda badan legality sharciyad aan lahayn iyo madaxweynihii iyo international community ayaa meel halkaas isu tagay go'aan bay ka soo saaray hadda United Nations ka la aaday arinta iyada ahayd marka waxa weeye deviation waxa dhacay run ah oo laga leexay dastuurkii iyo nidaamkii dawladnimadii mataqaanaa meeshii ayaa laga leexay sababtaas waxay keenaysaa in wixii la heegsanaayay iyo meeshii la aadi lahaay iyo tada la keen lahaay ay mataqaanaa aysan wali cadeyn muuqaalna aysan la si looga bixi lahaa waxa la isku caamiyo baarlamaanka mar la keenay guddi hal la qabto baarlamaanka ka kooban xukuumadda bulshada rayidka ah maamul goboleedyada dawladda talaha keenin baarlamaanka hal la keeno iyadana wax saasa waa la sameeyay marka wixii boqolaal waxay isdaba ordahaya iyo international community la yiraahdo oo wax ka cishanay dalkan aanay jirin oo waxay rabto iska sameynaya ayaa horta meeshii taala marka anagu hadda dawlad inaan nahay soo haysanaa dawlad laakiin ma nihin gumbaana Soomaalidan dadkeena Soomaalida ma waxay aaminsan inaan dawlad ma nihin adoon baan nahay xorriyadeedii waa la qaatay dalka inaan xoreynaa loo baahay gacanteena waxba kuma jiraan waxa intaas sii dheer dad la adeegsanayo lagu shaqaysanayo meel walba joogo dadkeena laga helay xaaladu horta halkaas ku sugan yihiin marka aanu intaas aan dheelo aadama xildhibaan hay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa wuxuu yidhi nin dariiq xariiqda garan karaya dawiyada liidarkii ku kacay danab dan kasaaba wadaw dhinac u doon u dhaqaaqaya innaga waxa weeye waxaynu dariiqaynu xariiqanaynu jeexanay ma jirto waxa weeye sidii hadda maxamed hadda sheegayay sharci kuma soconno dastuurka qodobka 49 ayaa sheegaya maamulada la dhisi doono ee dawladda federaalka ka mid noqonaya halkay mari lahaayeen 6 tirsi ayuu ka kooban yahay qodobkaasi tirsiga koowaad wuxuu leeyahay yani tirada iyo xuduudaha dawladahaasi ay yeelanayaan waxaa go'aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka qodobka labaad baa wuxuu leeyahay intaan taa la sabayn
waa in golaha shacabku uu guddi heer qarana magacaabaa oo kolkaas soo samaynaya daraasad yacni xuduudaha iyo arrimihii tirada warbixin iyo talooyin u soo celiya baarlamaanka qodobka saddexaad ayaa isna wuxuu leeyahay intaa taa la samaynin waa in sharci baarlamaanku ansixiya la keenaa oo sheegaya guddigaas tiradiisa waxa uu ku shaqaynayo muddada uu shaqaynayo qaabka uu ku shaqaynayo iyo shuruucda ay dowladaha ku samaysmayaan sidaas iyo sidaa cid u eegtay ma jirto dowladahan hadda la yidhaahdo gobollada laga dhisay sharci ay ku dhisan yihiin ma jiro sababtaa lixdii tirsi ee qodobkaasi sheegaya dhismaha dowladahaas midna lama taaban xaggiisa looma kicin yacni 18 gobol ee dalku ka kooban yahay iyo 2 iyo wax ka badan inay isu raacaan waa tirsiyada ka dambeeya laakiin 3dii aasaaska ah midna lama raacin horta taa waxaan qabaa anigu su-aal baa ka taagan aad haddii ay soomaalidu rabto inay dowlo noqoto oo nidaam raacdo horta kolka wareysa sharciga inay raacdo weeye arrinta kale ee meesha jirtaa waxa weeye yacni arrintii aan hadda lahaa nin dariiq xariiqdaa garanaya dawyada diidarkii ku kacay danab dhan kastaaba wado innaga hadda waxaad arkaysaa dalkeenna maamulkiisu siduu maxamed hadda lahaa gacan innaga inooguma jirto waa layna maamulaa laakiin waxaan ka xumahay cidda ina maamushana ma naqaano anu waxba kama qabeen maanta haddii la leeyahay waxaa idin haystaa oo idin xukuma dal hebel muddada intaa leeg buu idin haynayaa waxaasuu qabanaya haddii la odhan lahaa waxba kama qabeen laakiin hadda maxaan arkaa yani adduunka yani waxaa la leeyahay waxaan ka xumahay etoobiya iyo kenya maanta arrimaha soomaaliya inay maamulaan inay xaaraan tahan qaba waxaan qabaa annagu nabad baan rabnaa inaan ku wada noolaano waa deriskayagii ma nabcin laakiin annaga hadda xaalkaan taagannahay inay ka faa'iidaystaan oyna maamulaan waxaan qabaa inay tahay xaqdarro waxa kale ee jira ma aha kuwaasoo keliya qolyahan sheeganaya international communityga sheeganaya annaga waxay noo qabtaan ma garan anugu ma garan haddii soomaaliya ay rabaan inay degto oy dowlo yeelato sifooyin fara badan baa nalagu taageeri karaa oo maxaa ka mid a ciidanka iyaga oo la dhiso waxaynu ognahay $1,200 ayaa la siiyaa ciidamo dalalkan hadda jooga oo aanan ogeyn anigu sharcigay ku yimaadeen waxaan xusuusnahay 2007 dowladdii cabdullaahi yuusuf ee markaa baydhaba joogtay laba dal ayaa sharci lagu siiyey inay soo galaan waxay ahayd uganda iyo burundi inta kale oo dhammi wax sharciyadaho ay ku soo galeen oona anigu garanayaa ma jirto haba soo galaan lacagna ha la siiye war halka 1,200 askarta africa way istaqaanaa ciidankii soomaalida oo jira ay saraakiishiisii nool yihiin waxay ahaayeen ciidankii afrikadan jirta ugu adkaabu ahaa raggii aqoonta laha way joogaan anu waxaan isleeyahay haddii askariga soomaaliga $400 la siiyo oo ciidanka soomaalida la abaabulo waxaan qabaa al-shabaab mar hore ayaa dalkan laga xoreyn lahaa laakiin mushkilada dhacday waa maxay mushkilada dhacday ciidan ajnabi ayaa la siiyaa lacagta iyaguna ma filaayo ninna inuu diyaar u yahay inuu ku dhinto dal uuna isagu lahayn waayo aragnimada aynu leenahay dalkan 36,000
oo ciidana ayaa yimid halka Soomaaliya waxay ahayd waa December 92 ilaa Maarso 95 36,000 oo waliba dawladaha waaweyn ay ku jiraan dalkan waxba lagama qaban lacagta ku baxday 4 bilyan iyo 500 milyan bay wax raada oo ka tagtayna ma jirto waxaan isleeyahay waa waaya aragnimo aan leenahay inaan ciidan ajnabi waxba ka qaban karin kolka waxaan isleeyahay Soomaaliya intay fikirto oo nin waliba ayuuna madaxweynaha kulli la wada rabaa qabaa'il baa dadkii loo kala fadhiisiyey reer hebel waliba meel buleeyay dawlan ka ahay taasina waxa weeye cid waliba way ka faa'iideysanaysaa dalalkan aan hadda anigu ka hadlaya hadda way ka faa'iideysanayaan Soomaaliya way ka faa'iideysanayaan kolka arinta hadda su'aashaadu ay saaran tahay oo ah 16 waa berri ma ogtahay yaa inagoo sidana tala Soomaaliyeed oo aynu halkaa ku gaaraynaa ma muuqato waxay u baahan tahay dib in loo fikiro dhalinyaradani aniga maxamed hadda waxaanu nahay waa gabownay beeshin baa taaganahay waxay u taalaa dhalinyaradan ree hebel loo kala fadhiisinaya ee la isaga horkeenaya inay fikiraan oo dalkooda iyo mustaqbalkoodii ay ka fikiraan oo iyagoo mid ah ay hawl galaan aadamaas xildhibaan maxamed inta badan eeduhu waxay ku salaysan yihiin in Soomaalidu aanay xaaladooda hadda ay sii xumaanayso sida hadda xildhibaana ahaan aad adigu soo bandhigaysaan saan la socono hay'adii sharci dejinta ee dalkaatiin eedaha qaarkood waxaa muuqata baarlamaanku inuu mas'uuliyadeeda inta badan leeyahay hadiiba Soomaaliya marxaladda hadda ka sheekeynaysaan ay mareysaan xildhibaanadiinu waxa la idinku aadayaa idinka laftigeena shuruucda dalka in aadan fulin mararka qaarkood ku mashquulsantiin mooshinno mararka qaarkood aadan waxba abaabulka aadan sameeynin marka laga soo reebo dad badan oo mas'uuliyiin oo sida idinkoo kala waxa muuqata xildhibaanku roolkii laga rabay inaanu muuqan eedaha qaarkood soo baarlamaanka laftigiisu qayb weyn kama laha bismillaahir rahmaanir waxa weeye horta marka ugu horeysa baarlamaanku cirka ma soo dhicin dadku ka dhashay ummad walbana madaxdeeda ayada dhashay haddii beys Soomaalinimo oo qarannimo oo wadaniyada ku baarlamaan qabiil lagu soo xulay qabiilna nina kama xumaado waxa laga yaabaa kan ugu xun inay keenaan oo kii ugu fiicnaa ay ka soo tagaan Soomaaliya maanta laba waxyaalood baa lagu duleeyay Soomaali nationalism lagu burburshay qabiil siyaasadaysan oo darajo lagu raadin tolaa yaa reebel baa waxa naga wadaan iska celin baa lagu abaabulay waa qabiil siyaasi oo darajo lagu raadin diin siyaasadaysan wadaad madaxtinimo raba oo le mataqaanay dad kale waa gaalo ana muslim oo dalka wax qabanaya la soo raaco labadaas waxay baabaasheen Soomaali nationalism waxay Soomaali qarannimada iyo soo wadanadii Soomaaliyeed dad Soomaali xarig isku xiray oo Soomaali nationalism waa go'ay waxaas kala gooyay marka baarlamaanku wuxuu ka soo jeedaa ummadaas firirtay oo noocaas ka soo jeedaa wax ka gadisan ma noqon karo soo garmis wax ka gadisan ma noqon karo waxa weeye marka mas'uuliyadaas waaleeya baarlamaaniyada ummadda Soomaaliyeed u taagan u yahay laba marsiin wax yalaha qaarkood labana haweysteen soo garmis marka anagoo isdifaaci meeyna dadkan ka midnahay dadka Soomaaliyeed ka midnahay aad ma satahay xildhibaan Soomaaliya sida muuqata arinta federaalku dadku sida uu aada soo maraacsano dad badan ayaa dhaliilaya hanaanka federaal in Soomaaliya noqoto maxay yeelay waxay ku dhinaca markay ka fiiriyaan waxay leeyihiin dadkani waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin waa isku dad sida hadda aad meelaha qaarkood soo hadal qaadaysaan nidaamkan federaalkii waa qabiil federaaleysan sidoo buu noqonayaa mustaqbalka federaal Soomaaliya ka hirgala waxa siinaya xildhibaan Cabdi Xaashi horta waxa weeye federaal waa system adduunkan ka jira laakiin xaguu ka jira weeye su'aashu wuxuu ka jiri karaa dal aan dadkiisu horta isku diinahayn oo diimo kala duwan ka jiraan
dal dadkiisa qoomiyaad kala duwan uu yahay dal dadkiisa afaf kala duwan ay ku hadlayaan dad dhaqamo kala duwan leh horta federaal meeshuu ka hirgalaa waa dalalka noocaasa soomaaliya taasi ma jirto soomaaliya maxaa la rabaa waxaa la rabaa in qabiil looga dhigo federaal oo aan ahayn mid socon kara horta qabiilka inagu waynu naqaanahay qabiilka horta dumarku tira ahaanna ugama tirsana tala ahaanna uguma jiraan waa yacni qabiilka kolkaynu ka hadalno waana bulshada qaybta ugu ballaaran macquulna ma aha markaas in la yidhaahdo yacni qaybtaasi wax kuma leh dhinaca kale qabiilka doqonkiisa iyo fariidkiisa iyo maxaa la yidhahaa aqoon-yahankiisa iyo ka jaahilkiihi waa isku mid waa boqolaa la yidhaahdaa ma kala fiicna waxa weeyaan kay doonaan bay keenayaan hadda dumarkiina halkaasay dhigeen ragguna kaa weeye federaalka laynoo wadaa horta kaas weeye dawlo nin cabdidhuux yuusuf la yidhaha wuxuu idhi dawlo ehel bay rabtaa aqoon-yahan bay rabtaa aqoonule bay rabtaa awowyadeennii hore waxay odhan jireen xoolo ugub ka gado ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn haddaynu taa micnayno waa mushkilooyinka ina haysto abwaankaasi intaa uu sheegay dawlo ehel bay rabtaa waxay rabtaa dad yacni dawladda ehelu ah oo raba oo nidaamkeeda raba aqoon-yahan oo dhami dawlo ma noqdo ku garanayay rabtaa oo yacni halkaas marka uu wasiir noqdo wasaaraddaas waxay u baahan tahay nin garan karaayo ya wuxuu yidhi awowyadeennii hore xoolo ugub ka gado ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn oo micnaheedu yahay yacni gabadh ama wiil dhallinyaro ah oo fresh graduate waa lagu nasiibsan karaa laakiin qof soo galay xil waa in la hubiyaa muxuu ahaa muxuu qaban jiray muxuu yahay sideeba waxu in la isweydiiyo ma jirto inaga inaguma jirto tan ah federaalka waa wax erey laynoo keenay weeye maba naqaan micnihiisa federaal dadka soomaalida aqoonu u leeyahay ma jirto laakiin waa laynoo dhiibay waxaan leeyahay nidaamkaasi ma aha nidaam soomaali anfaca nidaam ay ku dhaqmi karto waa nidaam qaybi oo xukuna siyaasaddii xumayd ee gumaysiga ayaa halkaa la geliyey soomaali waxaa la arkay inay qabiilka u nugushahay kolkaa waa lagu kala kaxaynaya waana ta hadda inoo keentay intaasoo madaxweyne intaasoo dawlo aynu leenahay ya kaasi nama anfaco soomaalidu anu waxaan halkaa ku bedeli lahaa unitary state ama dawlad goboleed yani maamul goboleed ma aha dawlad goboleed maamul goboleed oo regional autonomous ayaan ku bedeli lahaa kaasaa ina anfaca oo gobol wal iyo degmo walba iyadoon la kala soocayn dadkii yani ay maamul ku samaysan karaan xildhibaan cabdixaash haye maxaa federasyonaha halkeebuu naga soo galay story keli ma la socotaan 1949 bishii November United Nations waxay go'aan ku gaartay in Soomaaliya 60 xorriyad la siiyo Talyaaniguna gaarsiiyo 10 sano xorriyad lagu gaarsiiyo Talyaaniga wuxuu xamar ka abuuray ama Soomaali guud ahaan ka abuuray axsaab badan oo Talyaaniga la jirto bar Talyana oo xorriyadda ka soo horjeeda oo leegada ka soo horjeeda gobernadorka marka waxaa dhacday markii United Nations go'aanku axsaabtaasuna waxay dhahaysay xorriyad ma rabno Talyaaniga noo soo cesho Talyaaniga xukumay ay dhahayeen marka Talyaaniga markii leegadii ku guuleysatay xorriyaddii in la cayimo waqtigeedii oo 60 ka xorriyad aan qaadan buu wuxuu u yeeray kuwii ma taqaanay sheeg axbaro Talyaanka ah axsaabtii qaar kamid oo beela kamid ayuu u yeeray anu hebel dhimay wuxuu ku yiri
waxaad yeelaysaan soomaaliya xorriyad bay qaadanaysaa waana hor istaagi weyn xorriyaddeedii marka beeshiinuna minority baa tihiin sidaa daraaddeed federationaan rabnaa dhahaya micneeda xataa ayaga laftooda ma yaqaanaan federationaan rabnaa bay yidhaaheen soo garamaysi federationyihiina mid socday ma uu noqonine dee doorashadii waxa ku adkaatay leegadii baa ku guulaysatay oo dalkii xukuntay oo 5 Soomaali weyn doonaysay ayaa xukunka qabsatay halkaasuu ku baaba'ay maxaa soo nooleeyay marka dagaalkii sokeeyaa soo nooleeyay oo ummadii meeshaan xamar la yiraaho waa centerkii midnimada qaranka Soomaaliya oo meesha xudunta ummadda Soomaaliya ku aasnayd wey markii xamar lagu kala cararay oo qowlba gobol aaday oo la kala tegay ayaa la soo dhaxgeliyay dad anaga naga mid ah loo soo dhiibay oo la soo noqon karay qolobii loo meel hadago federation hala noqdo federation rabnaa ma garad federation waa bomba atomic Soomaaliya dhaxdhigay wey federation tribal wey waa dubin qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliya wax qaybiyaa ma jiraan يعني dadka waxyaalaha nal ka cawriyay waxa ka yimid ay nal ka cawri jiray nasiibka aanu leenahay ummad wada mid ah oo kala gedisnay oo isku diin ah oo isku dhalada oo wax walba isla ah oo isku dhaqana oo anaga ahayn adduunka ma jirto Ethiopia Federation waa noqon kartaa Kenya waa noqon kartaa laakiin anagu ma noqon karno marka federationaha Soomaaliya waxa weeye mid dagaalkii sokeeyay la soo dhaxgeliyay oo laga faa'iideystay weeye oo la leeyahay Soomaaliya dambe yaan la arki wadab marka intaas waa kaas aada umahadsanta sidaan la socono dalka ilaa hadda waxaa ka jira maamul goboleedyo madaxweyneyaal leh dabcan baarlamaanka Soomaaliya sida hadda xildhibaan maxamed cabdi yuusuf sheegayna doodo badan ayay ka qabaan arrinta ku saabsan qorshaha 2016 oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka hadlayaan dhinaca kale doodo kale ka jiro oo ku saabsan in baarlamaanka Soomaaliya laftigoodu guddi 25 uu sameystay arrinta higsiga dhinaca kale aad kale ka jira baarlamaanka laftigiisa inuu rabo inuu waqtiga korarsado sala socono maamul goboleedyadaas hadda jira qaabka loola macaamilo waa inay sharciyiin marka la fiiriyana dooda ka taagan sharci ahaantooda dastuurku dalka muwaafaqsan yahay maamul goboleedyada dalka jira ayada waxa filayaa inaan sheegay waxa weeye qodobka 49 ayaa sheegaya sidii loo dhisi lahaa dawladahaas ka mid noqon doona dawladda federaalka qodobkaas kolka waxaan ku yiri tirsigiisa koowaad kiisa labaad iyo kiisa saddexaad saddexdii midna lama dhaqaajin yani waxay ku dhismi lahaayeen waxa weeye wuxuu qodobku leeyahay tirsiga koowaad wuxuu leeyahay waa in golaha shacabku go'aamiya tirada iyo xuduudaha dawladaha dhismaya ee ka mid noqonaya dawladda federaalka lama dhaqaajin qodobka labaadna wuxuu ku oranayaa waa in guddi heer qaran la dhisaa oo guddiga heer qaran soo sameeya warbixin iyo daraasad talena ka soo jeediya يعني سيدي أي كل اسم لها هاي كصد حدنا وحليه إنتان طلابات على قادم وإن يعني شرعي لا سمي تمدنا لما سمين كل كوا حيكون اسمين إن لا يقعد عيار ربع أنا قاعد رباط ليش دستور كي لما راعين لقوا ما دسن وحلقوا دسية كلية إيه موقتها غير هبل ولبا إنه إسكيسو لسقى دقائق وعود دستي يا وحشرعيضو ay ku fadhiyaan ma jirto haye maxamed arinta ku saabsan maamul goboleedyada oo lagu kala aragti duwan yahay dabcan dadka Soomaaliyeed hadda waxaad soo hadal qaaday arinta ku saabsan in maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii international community ay iyagu go'aan gaara visionka 2016 ay ka gaarayaan baarlamaanka Soomaaliyeed sidaan la socono isagu laftigiisu guddi uu higsiga 25 qodob qofood ayaa baarlamaankii Soomaaliya isugu laftigiisa sameeyay meelaha qaarkood sida xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ay sheegeen waxay sheegeen inay waqti kororsi u baahan yihiin miyaan la dhigi karaynin marka maamul goboleedyada eedahooda loo kaco baarlamaanku laftigiisa in awoodu dalka isku koobo doonaya waxa weeye horta fikradu nin walba fikrad buu qabi karaa walina de wax la isku raacay ma jiraan hadda arintu waxay taagan tahay waxa weeye gudiyadaas hadda la leeyahay wax la magacaabaya
oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo kuwa gobolada jooga iyo ma garanaysaa bulshada rayidka iyo mataqaan dad laga soo ururiyaa soo imaanaya kuwaasoo talay soo jeedinayaan taladay soo jeedin doonana baarlamaanka la keenaya baarlamaanku markaasuu go-aaminaya ama wuxuu ku daraya ama wuxuu ka dhimaya ama sayto u qaadanaya marka waxa weeye fikrad sheegis dad qabaa waa jiraan oo mid qabaa dawlad doorasho ma dhici karto wax kale lama samayn kare odayaal dhaqan looba noqon kare mataqaanay baarlamaanka waqtiga loo kordhiyo iyo dawladda 2 sano loogu daro si marka processka hal wado fikradaas dad qabaa waa jiraan kuwa qabaa jira beelihii dib ha loogu noqdo nimankii 135 kuwii hore soo xulay hala kordhiyo mar dambe ayaga soo xuleen mar labada soo xulo waxaan fikradu waa badan yihiin yani fikrado badan baa jiray qaabab dadku fikrayaan laakiin wali mid midaysan oo lagu heshiis yahay ma jiro marka hadda waxa la sugayaa waxa way gudidaas mataqaanaa ay sheegeen la qaban doono waxay soo jeediyaan baarlamaanka la keeni doona teeda kale Soomaaliya maanta waa dhimatay waa gowracanta cadowgeedina gacanta ku jirta historically-na annaga cadowgan weliga yeelahay konferensadii Paris Berlin isbartisoon de la Afrika marka Afrika la qaybsanay markiina la qaybinayay raboodkiina ku qaybiyay yani wuxuu ahaa midka haddana ku wadu ah ama awal lagu bilaabayba yaa raboodka keenay Ingiriiska keenay safiirkii Ingiriiska u fadhiyay Abyssinia la dhigay Ethiopia waa lama dhigi jirin Abyssinia baqla iyo farda asoo dalkeeno dhan maray kulli dabadna rabood buu qoray uu leeyahay qabaa'ilka geeska Afrika dega waa qabaa'il isku nooc ah oo aan kala gedisnayn oo isku dhaqan oo isku afa oo isu eg oo kala gedisnayn oo muslim oo wali Shaafici ah waxayna ku sii fidahayaan Abyssinia iyo Kenya waxayna dadalkaas ay ku sii fidahayaan dad aan diin lahayn baa ka horeey waa in muslimiinayaan marka laba waxyood baa la yeelo koow marka warayso socodkay ku socdaan halka hal xakameeyo la soo celiyo qodobka labaad iyo hal dawlad loo dhiibo dawlado badan hal loo dhiibo si loogu abuuro different culture markii hal dawlad ayuu haysta hadii hal dawlad loo dhiibo xoog hadhow way kacayaan hal mar bay awoodooda muuqanaysa marka hal kala gogoyo hal kala jarjaro fikradaas aan ugu soconaysa wuxuu xusayaa ninkaas waliba mataqaana Axmed Gurey iyo wixii aynu sameynay waxa soo sheegaya darawshi ka dambeysay marka waxa way annaga waxa mashruuc baan ugu socdaa mashruuc aan ugu socdaan waxa way geeska Afrika iyo Soomaaliya doonma dawladda macna ay ka dhalato haddana waxa noo la adeegsanayaa waa federasiyonaha qabiilka weeye shakhsiyaad la adeegsanayana waa nalka helay oo domestic rabaayada waa nalka helay waxa laga sameysanayo sida daraadeed marka waxa weeye dadka dhalinyarada meelaha fadhiyaan wax dhageysanaya anagu waaga idin la bidahay waa dagaalami jiray safaaradaha gub jiray magaalada burburin jirnay waana la ka baqi jiray codka iyaga socon jiray soo garmis marka waxa lagu ciyaaray mustaqbalkiina waa dhalinyarada meesha joogta anagu odayaal baan waqti waa soo dhamaysan waxa weeye dhalinyarada lagu ciyaaray waqtiina lagu ciyaarin qabiilka iyo qurunka iyo wadaadka xunka kaaro Soomaalinimadina u soo laabto dalkiina xoreeyo la dagaalama isticmaalka iyo wax wataan aad ma satahay xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf sida la socono baarlamaanka Soomaaliya waxaad moodaa in ay iyaga laftigooda si kala fogaanayaan dhawaantan waxaan la soconaa 12 Agost in baarlamaanka Soomaaliya mooshin 93 xildhibaan ay keeneen dhanka kale 126 xildhibaanna aragti ahaan waxay ka soo horjeesteen fikradda ku saabsan mooshinka madaxweynaha laga keenay hoggaanka baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu soo saaray qoraal ku saabsan markii ugu horeysay in mooshinkaasi sax yahay oo na aqbalay maalmo kadib waxaa soo baxay qoraal kale oo isla hoggaanka baarlamaanku soo saaray oo sheegayo habka mooshinkaasi uu u soconayo isla xilli kadib wuxuu soo saaray qoraal kale oo ku saabsan isaguna in maareynta mooshinka loogu magac daray oo mooshinkii lagu maareynayo oo wada hadallo lagu furayo qoraal saddexaad soo baxay oo afraad aan iraade soo baxay oo sheegaya mooshinkaasi inaanu jirin oo madaxweynaha wax mooshin oo laga keenay aanay jirin isla markaana 7 bisha soo socota wada hadallo ay furmi doonaan marka fiiriso hoggaanka baarlamaanku laftigiisa
waxaad moodaa in aanu siyaasadda Soomaaliya caqabadaha abuurmaya in hoggaanka baarlamaanku sabab u yahay sababtoo markaa akhriso afarta statement ama afarta qoraal ee baarlamaanku oo hoggaankooda soo saaray ee ku saabsan mooshinkii 12 Agost la soo saaray afarta qoraalba waxa ku jira qodobo isdiidayo oo ayaga dhan iska hor imaanaya miyaan la dhihi karin caqabada hoggaanka baarlamaanku qayb buu ka yahay xildhibaan Cabdi Xaashi waxaan anigu ku soo ururin lahaa laba arrimood oo kaliya waxaad xusuusan tahay saacid ninkii la oran jiray ayaa mooshin laga keenay mooshinka kolkii laga keenay prime ministerku xaq buu u lahaa inuu intuu baarlamaanka hor yimaado istifaaco yani waxa laga soo jeediyey inuu istifaaco gudoomiyuhu isagaa go'aan gaadhay oo waxaan sharciyad waafaqsanayn ayuu baarlamaanka keenay cod buu geliyey taasi horta waxa weeye waa arrin aan anigu qabo dhaliil u gudoomiyuhu leeyahay qodobka 92 tirsigiisa 3 wuxuu sheegayaa baarlamaanku inuu madaxweynaha yani ku soo oogi karo soo jeedin karo yani eedayn oo ay soo jeedinayaan yani 3 meelood kolka loo qaybiyo baarlamaanka meeli ay soo jeedin karto 3 meelood meeli waa 93 xildhibaan weey mooshinkaasi tiradaas ayaa loogu keenay gudoomiyaha waa sax gudoomiyuhu xaq uma leh sharciyadna uma leh inuu leexiyo ama uu meermeeriyo toos horta waxaan ka xumahay maxkamad dastuuriga ma jirto leesh qodobka xigaa sheegaya kolka sida baarlamaanku soo jeediyo in loo gudbiyo maxkamadda dastuuriga ma jirto laakiin waxa la raacaa sharcigii hore oo kolka halkii haduuna jirin maxkamad dastuuriga maxkamadda sare shaqadeeda qabata waxay ahayd inuu halkaa u gudbiyo waxaan kale oo dhamay waa wada qayr sharci labada arrimoodba anigu waxaan u arkaa gudoomiyuhu inuu gaf weyn oo sharciya u sameeyay haye xildhibaan maxaa cabdi waxa weeye horta marka ugu horeysa mooshin la keenay mooshin laga horgeeni karo oo mooshinkii 93 waa kii legality-ga lahaa oo laga keenay madaxweynaha xildhibaankii diideen marka codka la gaaro diidi karaa laakiin mooshin kale inta la soo qoro lama dhigi karo mooshinkaasan ka soo horjeednaa waa sharci darro illegaal weeye soo garanaysid waxayna ahayd procedure-ka la marayaa waxay ahayd markii mooshinka la keeno in maxkamadda loo gudbiyo maxkamaddu waxay eegaysaa eedaynta madaxweynaha loo soo jeediyey salma leedahay xamata ma jirtaa hadday caddaato inay eedayntaas ay sal leedahay baarlamaanka lagu soo celinaya baarlamaanka cod looga qaadaya 3 meelood hadday isku raacdo 2 waa madaxweyne xilka waa ka degaya soo garmaysid bandhacay ma ay dhicin marka mooshin kale la keenay ninkii gudoomiyaha marka waa la hareereeyay culayskiiba marka xal u heli waay markii dambe wuxuu galay loobin oo ah inuu mataqaanaa wax farsameeyo oo yiraaho madaxweynaha iyo qoladii mooshinka soo qashay ha wada hadleen soo garmaysid qoladii xataa mooshinka 25 ka mid oo guddiga loo xirsaaray inay arrintan wadaan ayana way la ogolaadeen in wada hadal la galo soo garmaysid marka dastuurkii iyo nidaamkiisii waxa ka leexshay problemkaas ka leexiyay waana waxaan legality la sharcidu saasay ahayd marka de waataan ku sheegay waxa weeye Soomaalidu waxay qorata ma jeclay waxay jeceshay mataqaaya sharci ah marka dhibaatooyinka hadda taagani xalkooda dabcan waxay u baahnaan doontaa wada hadallada sida hadda adigu aad hadalka u dhigteen saasaad ula jeedaan filaha hadda waxay ku dhamaad baarlamaanka baa la keenay in laga wada hadlo oo mataqaanaa guddi loo saaro oo la wada wax saas ay process noocaas waa soconaya wixii ka soo baxan baarlamaanka la keeni doono arkay aad u mahadsantiin su'aalahaanu bilaabaynahay su'aasha koowaad qalifay hay adiga waa su'aasha bismillah horta marka hore universal awil daahir iyo dood wanaag
leeyahay aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan nagu soo casuunteen waxaan sidoo kale aanu mahad celinayaa labada xildhibaan oo rug cadaaga ah oo siyaasiyiinta waaweyn ah maxamed cabdi yuusuf iyo maxamed cabdi xaashi laba siyaasi oo aad u waaweyn oo qarannimada Soomaaliya ilaa intay soo bilaabatay ilaa hadda ku soo dhex jiray ah su'aalihii aan weydiin lahayn horta xildhibaanada intoodii badneed ayaga iska qirtay oo waxay cadeeyeen inaan baarlamaanna jirin dawladna ayna jirin guud ahaan ba ayaga iska qirtay waxyaalahan weydiin hasa ahaatee waxaan haddana aan laga aamusi karin waxaad moodaa eedda oo dhan inay baarlamaanka ay leeyihiin sababtu maxay tahay ummadda Soomaaliyeed hab qabiil ba lagu soo xulo qaab kastaba ha ku yimaadaan baarlamaan baa la soo xulay dawlad federaal ah la dhisay baarlamaankii waxa cad inuu shaqadiisii qabsan oo meeshuu shaqadiisii ka qabsan lahay oo ka dhameystiri lahay dastuurkii oo ka dhameystiri lahay maxkamadda dastuuriga ka dhisi lahay oo hadii alla ku raayo xeerarkii xuduudaha uu sameyn lahay oo ummadda wax u jeedi lahay wax u qaban lahay oo dawladda meelaha ay ka liidato ay ka caawi lahaayeen si loo dhameystiro maamul goboleedyada waxa cad horta soo dhan inaan waxba ka qaban oo shuruucdii dalka in lagu haga la rabay mid ay taabteen aysan jirin mid walba meesheedii taal kaliya ay qabteen in ayagu oon mooshin shaqo ay ka dhigteen mooshin ama ra'iisul wasaaraha lagu rido ama madaxweynaha laga keeno ama cid kale ha laga keeno in oon shaqada baarlamaanku ay noqotay mooshin hadda waxa cad in shaqo baarlamaanba ayna jirin bil gudaheed guddoonka sare ee baarlamaanka saddex qoraal oo mid waafaqsan la arag ayaa guddoonka baarlamaanka ka soo baxday afar ka soo waana bil gudaheedu waay oo mid uu sheegayo in mooshinka uu sharciya oo mid uu sheegayo mooshinka in nidaamkii aan loo soo marin oo mid uu sheegayo mooshinka in xal laga gaarayo oo mid uu sheegayo mooshinkiiba inuu dhamaaday oo ku dhamaaday safgarada wada hadal uu ku dhamaaday yani waxay ku tusaysaa inaan baarlamaanku uusan shaqadii ummadan u idmatay hadday tahay dhamaystirka federalismka hadday tahay dhamaystirka dastuurka hadday tahay dhamaystirka maxkamad dastuuriya siday dalka uga hirgeli lahayd hadday tahay sidii ummadda Soomaaliyeed loogu jeedi lahay inay gaarto meesha 2016ka loo socday baarlamaanku midna inuusan waxba una ka qaban oo afkoodayna ku cadeeyeen labada xildhibaan inaan baarlamaanku wax shaqaha u hayaan dalkuna oo mustacmar oo ku jiro afkooday ku cadeeyeen oo maanta dawladdu ayna jirin oo gubeysi dalku oo dib oo u galay labada xildhibaan afkooday ku cadeeyeen marka su'aalihi aan weydiin lahayn oo ka weydiin lahayn meesha loo socdo iyo ummadda Soomaaliyeed meeshii gaaraysa ama ay hiigsanayso hadda waa iska caddo ayagii baa sheegay ayagaana xildhibaan umad ayaga xildhibaan u ahay ayagiina sheegay yiri baarlamaanna ma jiro dawladnimana ma jirto dalku wuxuu ku jiraa gumeysi buu ku jiraa ayaga nagu yiri caawa waxa laga rabaa marka hadii barxaladaas dhacday xildhibaanadii dalka u dhaartay yihiin ay ogaadeen dalku inuu gumeysi galay dalku tala qaran buu u baahnaa talada qaran ma ahan baarlamaanka iyo xukuumadda dhisan tala qaran oo dalku u baahnaa waxay ahayd in xasaabta jirta ee aan sharciyeysnayn la sharciyeeyo oo la dhameystiro oo xisbiyada la diiwaan geliyo oo la dhameystiro waxay ahayd international dadka muxuu ahay civil society-ga in hadii alla ku raan talada wax laga siiyo waxay ahayd aqoon-yahanada iyo jaamacadaha iyo dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalkooda fiirsanaya in talada wax laga siiyo tashi qaran in la galay ahayd hasa ahaatee waxa meesha ka cad in oon iska daba wareeg iyo macna darro ay xubnaha baarlamaankuna meesha ku fadhiyaan iyo inay ayagu isqabqabsadaan iyo inay dantooda fiirsadaan dalkiina mugdi inuu galay afkooda ku cadda oo waxaan ka weydiinaynaba malaha marka anigu waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed waad hodeen waxaana geliseen mugdi adinkaana geliyin mugdiga because adinka u dhaarateen inaad xildhibaan tihiin intaasna adinka maalina ra'iisul wasaarihiisa eriyay maalina soo eriyay haddana madaxweyne ku dhigan maamul goboleedyadina cambaarayna haddana sheegaysiin dalku inuu gumeysi uu ku jiro adinka layda ka rabaa marka waxa loo laaynayaana waa adinka dalka mugdiga geliseen wassalaamu calaykum waraxmatullahi haya cabdi waad sidoo cabdi haya يعني أدي أنا قاعد نصارته وحن إذا اللي هذا محن كوش شيء وحن كوش شيء دولة ده هن هذا اللي دسي كريستوشن كهالكايالا إننا مدنا أن الرائن أنا قلنا وصوب بندقني وحوي أنا وحن قبا ما برلمان كوكلي مع عبد يوسف إرجايدي دولة دي هرت دت كذا كما فينا أنا وحن قبا إذن كقبائل أفردية
shicibka soomaaliyeed baa reer hebel u fadhiya oo aan rabin inuu qaran noqdo aan rabin ee raba qabiil waliba intuu meel fadhiisto inuu yidhaha dawlaanahay cidla baarlamaanku wuxuu soo jeedin karaa fikir buu soo jeedin karaa laakiin haddii aan laba qaadanaynin oon cidiba u dhaqaaqaynin oo cid waliba rabto meel inay ku noqoto dawle iyo madaxweyne baarlamaanku arrintaa maaha waxaanse kuu sheegaya anu waxaan qabaa baarlamaanku waa run oo waxyaalo fara badan anaa qiraya oo sheegaya dalkani inuu gumaysi ku jiro halka waxaa la yidhaha ceel jaalle meeshii la odhan jiray annaga soo xildhibaannimo nihin ma galno ma geli karno waxaa jooga tirada waxaan ka hadlay anigu markii dhoweyd ciidamada afrika ee jooge ciidamo reer galbeeda oo dal walba ciidan ka jooga ayaa jooga mana ogin waxay qabtaan iyo waxay sameeyaan ma naqaano awood baa lagu haystaa kolkaa waxa weeye baarlamaankun maahee shicibka soomaaliyeed ayay u taallaa isagoo isku duuban oo mid ah inuu cid walba wejiga ka horgeeyo uu naga baxa yidhaahdo anumaba garanayo hadda dadka ciidamadan joogaa cid kasta ahaadaane dalka soomaaliya waxay u qabtaan walaana garan anigu ma garan ya marka waxa weeye innaga inoo taallaa ma aha baarlamaan iyo madaxweyne iyo xukuumad iyo inta la iloobo dalkii halkaasuu yaallaaye sidaynu uga baxnaa waxaa weeye horta marka ugu horeysa baarlamaanku eed buu leeyahay shacbiguna eed buu leeyahay baarlamaanku eed buu leeyahayoo waajibaadkii laga rabay sidii loogu talagalay uma fulin umana shaqeyn shacbiguna eed buu leeyahayoo shacbi aan laga baqin shacbi maaha anuu hadda kahor baarlamaankan ka hadla waxaan idhi xukuumadda iyo madaxtooyadu waa inay baarlamaanka ka baqaan baarlamaankuna waa inuu shacbiga ka baqaa shacbi laga baqaa waa la waayay shacbiga haddaan laga baqinna baarlamaanna ma jirayo xukuumadna ma jirayso nin walba wax ruu samaynaya soomaalidu waxay ku mahmahdaa waa mahmahyo duqa soomaali kal baqay leedahay kal xishooda male haddaan la baqin oo shacbiga indhihiisa iyo soo jeedistiisa fircoodaan laga baqin nin walba wax rubuu samaynaya waa idin iibsanaynaa baarlamaanka haddaan nahay xukuumaddu wax rabtay samaynaysaa madaxweyne wax rabuu samaynayaa soo garanmaysa waxa weeye marka horta nuqda shacbi laga baqo oo aan loo soo dhowaan karin oo waxooda aan la taaban karin oo hantidooda la boobi karin oo la dhici karin noqda oo midnimadii sharaftooda ilaa markaasaan anaguna baarlamaan fiican noqonayna oo aan idinka baqayna oo idiin shaqaynayna laakiin haddaad ii sabcinaysaan anigoo tuuga ood leedahay waa fiican yahay dee anna tuug baan noqonay waxaday waxaan samaynaya marka horta marka ugu horeysa marka wax kaaraynaysid waa inaad adigu noqotaa qofkii wax samayn lahaa teeda kale shaqooyinka hadda magaciisa ka hadlay xukuumadda iskale baarlamaanka waa loo keenaa shaqadii xukuumadda wey baarlamaanka waa loo keenaa xukuumadda u keenta xukuumaddii waxba uma keenaa baarlamaanka soo garamaysa madaxweynihii baarlamaankii iyo wixii iyo xukuumadda waa isku labmays madax ku nool bay noqotay dowladdii madax ku nool ma taqaana bayskii waa lumay madaxweyne prime minister iyo ra-iisul baarlamaan ba isdaba ordahay wixii kaloo waxba kama jiraan soo garamaysa waa madax ku nool waxa dalka ka jira marka waxa weeye shacbi nool oo laga boqo noqda oo soo istaago noo weyna noqda markaas baarlamaanka waa idinka baqi nin walba baqaya dalka waa loo shaqaynaya laakiin anigoo tuuga maxamed cabdiisoo daara dhisanaya guriga gadanaya dhulka gadanaya adii sabcinaysa waa fiican yahay intaad durbaan soo qaadataan nina idinka baqi maayo هذا ما استحلون هاي السؤال هذا هاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda ina daawanayso magacayga waa Muna Xasan Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan
runtii aadan ugu faraxsanahay dad qubaraa oo xildhibaanaha inay caawa hor fariyaan waliba aan su'aalo weydiinayo laba su'aalo aan rabaa inaan idin weydiiyo waxaan noo sheegteen in federaalku uusan dalku u diyaarsaneen qabaa'ilo la isu qaybinayo waxaad tihiin xildhibaanadii qaranka ee ummaddu annaga idin soo dooran xaqiiqdii laakiin waa lidin soo salagta gareeyo qabaa'ilad ka timaadeen dad badan oo aqli iyo xikmad iyo aqoon aan ku tabeynana baarlamaanku way ku jiraan maxaad u dejin weyseen sharci aad kaga hortegaysaan in waddanku aan qabiilaysi loo qaybsanin maxaad uga hortegi weyseen su-aashayda kuwaad taas waaye midda labaad waddankii gacantuu ka baxay sidaad noo sheegteen mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed mugdiyay gashay muddo 25 sanana waddanku burbur iyo dhibaato ku sugnaa waxaan idinka rajaynaynay in dalku aad nidaam iyo kala dambeyn u dejisaan maadaama aad tihiin xildhibaano qaran ee sharci dejiyaalna aad tihiin haddii waddankii aad aragteen in mugdi uu galayo waqtigiina xeere iyo kala fandhaal kala dhacayna aan joogno waxa idiin hara ee hal sana yihiin maxaad mar hore noogu sheegi weyseen si aan uga hortagno oo aan idiin dhagaxyeeno oo cid kasta oo dhibaato u keenaysa waddanka aan uga hortagno waana mahadsantihiin aadaa mahadsan tahay haye cabdixaashi wallaahi adeer aad baad u mahadsan tahay waxa weeye dareen fiican oo waddaniya ayaad ku hadlaysaa waanan qaadanaynaa yacni dhaliishan aad soo jeedisay eed noo soo jeedisay waa qaadanaynaa waa sax baa tahay waxa weeye federaalku yacni fikirka federaalka baarlamaanku heshiis kuma aha oo yacni waxa weeye waxaa dhici kartaa ani iyo maxamed cabdi yuusuf inaanu diidanahay federaal laakiin kuwa kale ay ogol yihiin waa la soo qaadaa arrinta laakiin way taagantahay mushkilada meesha ku jirtaana waxa weeye waa qabiilka yacni annagu baarlamaan baanu nahay laakiin kolkaanan been idiin sheegin baarlamaannimada iyadu waa mid duran dhexda ka daloosha oo ah maskaxda waxaa ku jirta reer hebel ayaa ku jirta su-aalahaagan waa su-aalo aada xaq u leedahay oo qof kasta oo muwaadinihii uu ka fikiri karo baarlamaankana waa su-aalo hor yaalla oo ay sax tahay inuu tallaabo ka qaado anuu horta intaasaan odhanayaa maxamed baa yacni ayaa baarlamaanku ma keenin baarlamaanku shirweyne qaran baa la qabtay waa la socotaan oo gobolladii dalkao dhan la isaga yimi 800 qof la isugu keenay kuwaas ayaa ansixiyey tan la hor keenay ansixiyey oo go-aamiyey in lagu dhaqmo intii afti laga qaaday dadweynaha laga qaaday marka waxa uu la bedeli karaa waa markii afti dadweyne la qaado wey oo dadweynaha loo bandhigo cudurka ayna hayaana waa federaalka qabiilkiibaa waxa loo sameeyey waddan loo sameeyey reer hebel xagga taga kaaba qabiil madax u duuba madaxweyne way dhahayeen way wax dhan meesha ka jira marka waxa weeye federazione waa antinazionale mana noqon karnaa waa antinazionale wey waa qaran dumis waa Soomaaliya kala tagto waligiis soo imaan wey marka waxa weeye arrinta Soomaaliya wax dhow maaha wax u baahan sacrifice u baahan fikir badan u baahan dagaal waxaas loo baahan kuwaaba yiri jamhuuriyadda waa ka go'an calanka la sameesto yiri jamhuuriyad baan yiri soo garmo sidii loo yaani wax ma dhawa hamoodinina wax dhow inaan shaqo badan baan inoo taal ayaa noo taal idaacada waxaan maqlay dhahaya Soomaaliya iyo Soomaaliland dhahaya markay Soomaaliya iyo Soomaaliland maxay kala yihiin maxay yihiin Soomaaliya hal xabba way soo garmo jamhuuriyadda Soomaaliya raas Gamboni iyo Lawicad inta u dhaxsan dadka degan waa jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliland bad maqlaysaa يعني ماشي مريس حالته وحوي وحده وما هي هلو ديار قروب الدلك إن الحرية عدويني ما نقعنت وجرنا عدويني تراديشنال قعنت وجرنا السجان كلا غيبين هيا السجان سكوكين ديرها هيا السجان ندول فردية وحوي حدا سامبي واجد عبد الله يوسف الله نحرسه aan joognay meesha la yiraahdo Nairobi oo Cabdullaahi la doortay
annagu waxaan ka mid ahay baarlamaanka xortaa diiday baanu ka mid ahay maxaynu isku qaban laba qodob baan isku qaban waxaan isku qaban cali geedi baa wuxuu keenay oo prime minister ah wuxuu keenay ciidamo aan la kala soocin in dalka la keeno meel kalena la togan xamar la tegin annagu marka mooshin ma qoran aynu leenahay ciidamo safka hore lama keeni karo xabarna hal tago iyada caasimadii ayaanu mooshin ku keenay mooshinkii waa loo codeeyey codkii annaga helay codka iyagii looma hogaansamayne waxaa la tegey jawhar annana waxaanu nimid mataqan meesha la yidhaaho xamar baanu nimid muddo ka bacdi waa la isku soo noqdo waxaan isugu tagnay meesha la yidhaaho baydhabaan isugu nimid baydhabo markii muddo la wada joogay ayaa waxaa la soo cusboonaysiiyey safka hore ciidan hala keeno cali maxamed geedi mar labaad keenay waanu diidnay markaas ma la keeni karaan ciidamo neutral oo dhexdhexaada oon arrimaha soomaaliya interest ku lahayn waa in la keenaa oo dowladda amniga ilaaliya ciidanka soomaaliya la dhisa laakiin wadamada safka hore oo soomaaliya arrimaheeda interestka ku ah lama keeni karaan ayaan waa tii markaas in la laayaa go-aan lagu gaaray toobiyaankii iyo dowladdii markaa jirta halaya rag aniga iyo cumar xaashi iyo allahu naxariistee in la dilaa go-aan lagu gaaray baydhabana la ku dilo waxaa weeye marka waataan ka baxnay marka meeshii oo casmaro tagnay oo marka kaamisna isu soo noqonay oo la heshiiyey shariif noqdo madaxweynuhu la soo laabtay go-aankaan ku soo laabanay wuxuu ahaa inaan etoobiya ay ka baxdo dalka ayaan heshiis ku galnay etoobiya joogta heshiis geli maynaa nidhi mana yeelayno dalkayga xor maaha waxaan la hadli karnaa dowladda xamar joogta waa marka etoobiya dal ka baxda oo markaa dad dalka wadale aynu noqono soomaaliya noqono laakiin ma hadlay ballamanka etoobiya waa laga saaray markaas jabuuti isugu nimid dowladdu waa tii la sameeyey waa nim agayn annagoon war ka hayn baa ciidanka etoobiya mise dalka soo gala on wax wara laga hay waxaa marka naga sii jeediyaa shabaab colaaddii shabaab loo qaybiyey baa dadka aan iska ilaalinaynay naga sii jeedishay soo ma garan maanta etoobiya dalka gacanta ku haysata etoobiya annaga ehel nooma ah runta markaa rabtaan qaar baa waxay walaalahay etoobiya ku dhahayaan arkayaan etoobiya annaga ehel nooma ah walaalkayana ma aha cadowga koowaad adduunku qabno ayaga wey mana ay qaldaneen annagaa qaldan markii anigu etoobiya burburtay isuma soo celiyeen isumana keenin soo garmas ayaguna soomaaliya burburtay inay sii burburiyaan ma isu keeni maayaan marka waxa weeye horta in la fakera loo baahan annaga etoobiya dalku ma haysano dad soomaaliya xukuntay kilka shanaad bay noqdeen maamul bay samaysteen kuma haysano laakiin jamhuuriyaddii rabaa inay qabsadaan oy baabi'iyaan oo qabiil qabiil u kala qaybiyaan oo ebernal ka dhigon dowlad aana noqon marka waxaa la yeelahayaa war arrintu maaha baarlamaan baa saas iyo hebel baa saas ma taagne aynu runta shisho dowlad ma nihina dowladnimo aan raadsano gobonimo doon aan noqon xorriyadda aynu doonano xaqiiqadii taa wey iyana waqti iskaga qaadin hebel baa iyo hebel baa hal eray baan kaga baarlamaanku yani arrinta dastuurka isaga xaq u leh in wax ka bedel ku sameeyo eedda aan u haya baarlamaanka taas weeye sababtoo ah waxaa weeye baarlamaanka ayaa lahaa inuu baalkan amendment ku sameeyo laakiin taa ma aanaan samayn waa arrinta baarlamaanka mar kastaba hortaalla weeye arrintaas aada umahadsantaha haye su-aalahan wadina haye 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 بسم الله الرحمن الرحيم عودة على الصلاة وما صنتها برنامج كدود وذاك وحنو ما نقيا حلماندا روح عداك سياسيين تا وعاو برنامج كان دوذاك قبل قليا أو تاريخ دير نور شيء وكم فيهن حلماندا لكن وحن كسوقين ما دام يهين حلماندا ذلك وعلى ذيك السوق شرع الدجيات تهين إنه قد بدي الذي أنكمي لو ذكرنا لو يتمنكا إنه حياله بدنا كبد الشان حتى أمد الصومالية عودنا دقيقتين ساعة ولا في سنة ساعة waxyaalaha ka hadlaydiin soomaalinimada
iyo Soomaali jaceelka waa ka dheregsanahay wax badan baa Soomaaliya ka maqan Soomaaliya waxay ugu jirtaa beesha caalamka ay gacanta ugu jirtaa nidaamka federaalka dhaqaale badan baa lagu bixiyay 800 odayaal iyo dumar ayaa ka qayb galay oo ansixiyay adinkan wax kama bedeli kartiin sabab muuqato inay haboon tahay in la dhameystiro maamul goboleedyada iminka haray ee laga daayo mooshinka dawladda federaalka maadaama Hiiraan iyo Joor haday hirgasho wax dhiman oo kaliya waa caasimadii dalka kadibna waxay noqon doontaa in loo kaco in doorasho la galo ma moodin xildhibaanadiina aad diidantihiin in doorasho 16 ay maamul goboleedyada ay soo dhisaan xildhibaanada هذا ما مصطفى أي محل وعوي أذير وعوي هرت مقوه رئيس موشين يدولة قبلية شقاء إسكومالي برلمان كو حقو ليه ويحي قلت ذلك يومد كو آي الموشين كانوا وحنيبها يو معمول للصمين لها يو وحوى للصمين لها أنا ما هو ووح كالي قد سنو شقاء إسكولاي وي موشين شقاء جوجين مهيو warkan waa warka suuqa laga yiraahdo mooshinka baarlamaanku keenay shaqooyinka dib u dhigaya keerbu sameynaya ma jirto waxa wax ka jira ma jiraan marka mooshinku waxa weeye xildhibaanadu waxay xaq u leeyihiin mooshin inay keenaan ayagoo daacad u ah dalka iyo dadka iyo wixii xumaan ka jira inay keenaan xaq bay u leeyihiin waxa soo haray maamul goboleedyada dadka inay soo xulaan oo ayagu ay keenaan maamul goboleedyada marka dalka maanta ka jira waa kuwe إهل مويهين إن دت معنا الصومالي ذلك وكينا ما القضية قبر حكومة يا دت كين هاي ذلك ونقلنا أنه المقبر فمقبر وحاول مركا يعني وضد الله قال لي حنيني أينو وضد الصحة أينو آدنو ووحنا أينو كذا قلمنو وحفي عنا أينو قعنسين ساسا دمت أمضي كجرته هذا ما موشينكو الصومالي وحوية سوجيدين وي وحنا فيليا شقوينك بارلمانكا وحيالدا ugu muhiimsan way inaga waxaad moodaa dadkeenu marka la yiraahdo mooshin waxay u qaataan yani waxuun wax kharibaya ma sida ta kale yani anigu hadda waxaan idin sheegay dhismaha maamul goboleedyadan la dhisay sharciyad ma leh yani akhri charter constitutionka akhri qodobka 49 akhri intii aan ku sheegay baad arkaysaa gobol ku dhismay ma ku jira weey oo maxaan ku taageeri haduuna sharciyad ku dhisnayn waa maxay waxaan ku taageerayaa dalna wuxuu ku dhismaa yani dawlo sharcina waa lagu dhisaa sharcina way ku shaqeysaa haddaanad sharciba ku dhisin sidoo u shaqeynayaa weey anigu saashan qabaa taas weey wad mahadsantahay هذا ما استطاع حبيب هي بسم الله الرحمن الرحيم إن اللي عبد يوسف إن ولكن أول داير الصلاة ضمان يونيفرسال تي في إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كقيم قلياش هذا شيء كبهذو دكتك هاجا بيرتو بوريو وجلسوا بوكك هاجا مقنطعي مقن كم بوكسيه وعلى سكوا لا أركتنا بدانت هرتا عوض حقيقتي أنا هنا عوض حقيقتي أنا هنا أرنتان كورتك ويكتكتي كدبتك بيتاج انتهي ما أرى نباير ما أرى وارن مساعدة بالجيسية ورنيكي مدحوينه نوحة حسن الشيخ محمود وعشر كتوميني oo caalamkii boqolaya intaasoo dal madaxweynahoodii ayuu shirka doomiye ka yahay hadda sharaftii Soomaaliyeed inay soo noqotay dawlad noqonnay oon xoog yeelannay ayaan u haysanay dib u dhacan muxuu yahay
والدولة الآن تشيء إنسان ما هي تاعي ما هي تاعي ماشن لا إلا ما تنسروا تلك disaster باك معي دمانتين تروماتايز معي تراما ما كلية معناها ودنك وحوها لا إلا ما تنسر كتب إن وحلا قبطو ما انت يرتيك حلي بان ندينا مركز تيسك سور جيدا كلي وعاد خبتين وضرطو كدعا دمركا وبالحقيقة والله بالله وطلعي وسسبيشيوس شكي وحبو علي وحبو قريي وشكي ميرموي قبل وارونتات حتى ترون شيء يسين تضعف ما تقبل هذا إذن أنا إسكا قبلنا ما أدري شيء كويس ما أدري شيء كويس لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يتبع أنا وحنديها حلبان عبد حاشي إيه ولالك حلبان محمد عبد يوسف حسارت بيلين كما حد كنت بكره لكن وحديرين هل كاسان فريسنو أنت شد نجا ساسر عاولينا أو تلادي ما أنت ما فهمتي إذا كاني أنت سنو كتاب كاني أنا سكول كنو ما فهمتي شباب يا أنا خبطسين أنا كساب عنديها مرة تلك لك الكوكو صلا وعلى بقيو يوتيوب معرفوها كي ما أنت تبقى ودستي إيجوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واس أيها اوكي هاي دكتور حبيب هاي waad mahadsan tahay annagu waxaan kuu sheegnay hadda yacni been inaan ku hadlo oo aan idiin sheego ma rabo anugu waxa weeye xildhibaan baan ahay dalkan u ahay ma geli kara xalane waa dalkaygii waa xeradii askartayda lagu tababarayey ma geli karo marka ma waxaan ku idhaahdaa xor baan ahay oo waxaan ahay dawlo xora oo taagan baan ahay miyaan ku idhaahdaa ya عبد العشوة ما تصدق ha مدحوينها ما أنت عالم كخي ميسن أنت نسوق طقنو ha أنت السنو أنت سنو موشي كم باس نجوجيا وتوجيا إسقي أنت توسنو ولا نسوق طقنو ميرو ولا يسبر مرينا جامعة ومتى ما تشقين إيسا ولا أرو جوجيا موشيكا وريراهي كبخا لكن ترى تقيب كليه maya qof kama baqno ilaahay baanu ka baqnaa shacbiga soomaalidana waa ka baqnaa qofaan dalka daacad u ahaynoo ka danaysanayana annagu kama baqayno ma garad danaystayaalna ma lihin annagu aniga ninkaan iyo wax nala mid soo garan maysid aniga anoo 10 sano jiraa lay xiray 7 sano anoo jirin aabbahay dhagaxtuur baa lagu dilay ma garad biladiisa anaa haysta laysiiyey dhagayso waxaa wax ka gedisan oo yeelahayaana ma jirto dhegtaan waa dilaacsan tahay 1963 markii NFD Kenya lagu daray raggii safaaradda Ingiriiska u dhaw calanka Ingiriiska gubay baan ahaa oo daraawiishta madax ka jabiso dhegtaan laga dilaacsho laga qalay wax ka gedisan ay dhadhaami mahayaan dad xoogsan hayo dadkii Soomaali gaajo u baqtay dhul gadanayo daar dhisanayo xoolo samaysanaya anigu u sabcin maayo mana yeelayo Nicholas Kay dad xukumo airportka loogu yeeranayo aan sharafteeda ilaalinayna anigu ma ilaalinayo waxa weeye madaxweynaha Xasan Sheekh annaga dooranay ragii doortay baan ka mid ahaa anoon aqoon baan doortay ayaan dhexdaasa waqti hadda sanad laga joogo ayuu ii yeer wuxuu yidhi oday maxamed inaad bal ila talisaan rabaa waxaan idhi dhegayso anugu darajana kaama raba
xoolana kaama rabo xilna kaama rabo hal xabba keliyan kaa rabaa soomaaliyan kaa rabaa soomaaliyan kaa rabaa soo garmis soomaaliyan kaa doonaya soomaaliya midnimadeedii iyo sharafteedii wada jirkeedii iyo horumarkeedii inaad ka shaqaysan kaa rabo without condition baan kula shaqaynaya aniga wixii la mida baan kula shaqaynaya soo garmis waxaan idhi madaxweyne markii ninku noqdo saaxiibna male cadowna male farusaan bi maxamed siyaad baan soo qabtay maxamed siyaad oo raas gambooni ilaa meesha la yiraahdo lawi caddo guulweysiya la leeyahay oo hadduu yiraahdo 100 nin hala dilo maalintii loo sabcinayo ayaa wuxuu samayn jiray dadka ugu fokacaanka iyo asaga ugu neceb intuu soo qaado darajo siin jiray markii la yiraahdo maxaad ninkan kacandiidka shaqada u dhibtay wuxuu jiray kacandiid baa inaan madaxweyne u ah dhageyso adigu xaafad xamar ma xukuntid madaxweyne dib u heshiisiineed baad tahay dal burburay madaxweyne u tahay qof walba intaad u tagtay lugaha ku dhow dalka midnimadiisa walaaltinimadiisa ka shaqee soo garamaysid baan kula taliyey waa iga diid waa yahay buu yidhi laakiin koox yar damir jadiid iyo hoose ka gal soo ma garan dhegaysaade ma garan soo ma garan maqal madaxweyne ma noqon karo kaaba kooxeed ma noqon karo waa inuu dadkoo dhan u dhaxeeyaa soo garmaysid marka horta waxaad sheegaysid adee annagu dawlad baan rabnaayo derajo ma rabo aniga ninkaani wallaana derajo u rabna derajo aana soo qaban waa yartahay aniga madaxweyne ma noqon lakin inta kaleo dhan waa noqday caawa haddaan nitana wallahana shiin layga dhexlaynay bilaahi tallaahi soo garmaysid wallahan layga dhexlayn wallaahi bilaahi tallaahi soo ma garan dalkayga iyo dadkaygaan shaqo jeclahay anugu meelaan kasoo shaqayna ma jirto waxaa weeye madaxweyne fiican oo soomaali muwaadinaan doonaya aniga ayaan rabaa kaan rabaa kaa wey waxaan rabaa baramister wadani wanaagsan waxaan rabaa baarlamaan fiican waxaan rabaa shacbi fiican kullikaygo taa wey marka waxa weeye haddii qof wax sameeyo waxbaa laga sheegaya waxna lagu qaban karaa soo garmis marka waxa weeye horta xaaladda dalku waxaa weeye saa idiin sheegayo ha u malaynina wallaahi bilaahi tallaahi soomaaliya inaysan dawlad ahayn been baa naloo sheegaya inaana dawlad ahayn been baa naloo sheegaya wallahi inaana dawlad aan ahayn nicholas kay baana xukuma iyo safaarada xuna yurubiyanka ana xukuma ayaana xukuma ma aaminsana xildhibaan inaan nahay aniga soo garmis waxaa loo baahan yahay xorriyaddeena inaan u dagaalano dalkeenna in la qabsadaa la doonahaya cadowgeena gacanta ugu jirnaa taas ogaada dalkeenna yaa maanta gacanta ku haya yaa saaxiib meel walba dalkeenna baddeenna qashinkana waa lagu dayraa kalluunkeenna iyo xoolaheennana waa laga urursadaa deemaynta balidoogle habeenka intaasoo diyaarad baa laga rartaa oo lasoo inta la gurtaa la qaataa maraykan baasi military maraykan ah ayaa ku yaalla ayaa ku yaalla waxa weeye marka aynu indhaha kala qaadno waxa weeye aanu aragno dalkeennii wuxuu yihi dadkeenni waxay yihiin aynu u dagaalano inaga daayo mataqaanaa isheeg hebel baa xun iyo hebel baa fiican aynu dagaal galo waxaan filayaa waa idin siinaynaa caawa halkan waxaynu isugu nimid infact waxa weeye aad baan u jeclaysanayaa inaydun na weerartaan ood noo sheegtaan khaladkayaga waa ku farxaynaa ma idinka xumaanayno hal shay baan idiin sheegayaa magaalada xamar waxaan isleeyahay amnigeedu in la sugo oo amnigeeda la sugo ma xaaladan hadda aan ku jirnaa lagu sugayaa amnigeeda yacni derbi horta fool xumaa laga dhigay magaaladii jidadkii oo dhan baa la xirtay yacni meel kasta guri mas-uul degan yahay ama meel xafiis lagu sheegayo waxa laga dhigay yacni waxaa lagu xiray ma garanaya anigu mana noqonayso taasi badbaado iyo security ma noqon karto nimankan hadda isqarxiya dee dhagax kasta oo yaalla waa kuwan gubaya ya aynu kalsooni yar isku qabno wakhtigaynu dhimanaynaa ilaahay baa sheegay
ma dhaafayno horta intaa inaynu maskaxdeedna gelinno oo mas-uuliyiinta soomaaliyeed intaa inay sameeyaan waa lagama maarmaan ani waxaan idiin sheegayaa magaaladan xamar anugu ma ku dhalan laakiin cimrigayga anigu 68 sanaan jira hadda anigoo 24 jiraan imid meel kale oo dalkana ma tegin intaa cimrigayga iyadaan joogay hargeysa ayaa laygu xiray 2001 oo maxaa laygu xiray waxaa laygu xiray adigoo reer hebela miyaad midnimo soomaaliyeed rabtaa soomaali baan haymaanay reer hebel sharcina igama qaado imana siiyo laakiin sharci wuxuu iga qaadaa amuu isiiya waa qoomiyadayda ilaa hadda soomaali baan intaa waan joogaa qof walba waan ka jeclahay xamar iyo dalkayga oo isku duubma oo mid ah laakiin ima muuqato dee dadku waa is yaqaanaa anu hadda isu kiin sheegi maayo laakiin waxaan idin leeyahay waxaa dhici kartaa dareenkiinu inuu yahay amay baarlamaanku rabaan inay meesha sii joogaan maya laakiin yacni baarlamaan fiican oo isku duuban sidaynu ku keeni lahayn ayaan anigu su'aal qabaa qabiil ma qabo inuu keenayo wax soomaali midaynaya ma qabo kolkaa yacni waxa weeye uun sidaynu kulligeen inagoo isku duuban bal xal u keeni lahayn raalliga ahaada بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحاول ما هدعلنا يا مركز كوبات عالمي يونيفرسال يو وريه هنا وين برنامج كان دادهينا يا وريه عويل داير صلاة حلي بانا ذو حن ربا حلي بانا ذو أم هدعلنا يا ما دام حلي بانا بدن دباتوين لوجستي هذي دلتهاي هذي داوعتهاي دباتوين بدن يحال هذا أذك إكو شقيان ونهانتي حالات كستو أذك أكو شقيسان annagu dhinacna shacabkiina ka nahay waa idin dhaleeceynayna waan maaragtay waxa waay wax badan aan idin ku tabayna moogtahay marka raalli ahaada waa ognahay duruuf adag maanta ninka xildhibaanka ah oo duruuftu ku shaqeey maanta isu sheegi maayo waxa ognahay hiigsigii 2016 in la gaari waayo ognahay haday tahay sameynta maxkamadii dastuuriga ahayd haday tahay dib u eegista dastuurka qabyada ah haday tahay curinta xeerarka shacabka oo maaragtay doorashada maaragtay 2016 sida loo gal lahay loogu diyaari lahay haday tahay dib u curinta hay'adaha asaasiga u ah dawladda haday tahay nidaamka saxda ah federalismka loo sameeyay lahaa inta in oo guul darro ay dhacday wax la isku waafaqsan yahay waaye dhinac cirtaha maaragtay ka timaado hadii meeshaasi aan taagannahay oo isgoyskaasi aan taagannahay oo xildhibaanadeenadu ay leeyihiin waliba xildhibaanadu markaan leeyahay dad waay arag ah oo waqti dheer ma aragtay ku soo jira siyaasaddu isgoyskaas markaan taagannahay oo aan dhaleeceynayno nidaamkii 4.5kii oo habka qabaa'ilka ku salaysnaa ah isla markaasna aan dhaleeceynayno nidaamka federalismka oo qaarkood sida oo xildhibaanadu noo sheegeen aan sharciga dalka aanan waafaqsanin qaabkay u dhismeen ama qaabkii loo sameeyey maxaa kaloo ku bedela karnaa maxaa kaloo badilno ah oo aan ku bedela karnaa maya labadooda ma kala dooran karnaa walba nidaamkii 4.5ka ahaa nidaamkii oo maxaa la yiraahdaa oo hadda oo 4 madaxweyne oo goboleedka hadda oo maaragtay sida hadda jirto sida Puntland iyo Galmudug iyo maxaa la yiraahdaa Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo hadda la sugaayo iyo Koonfur Galbeed iyo maxaa la yiraahdaa iyo Jubba state marka iyo madaxweynihii dawladda federaalka ah oo 6 isku noqonay systemkaasi miyaan ka war dhoornaa mise systemkii 135 yaa weyn yaa ballaaran oo aas dhigi karnaa nafkartooda wax waa ku aamini karnaa haddii labada system aan diidno systemkee kale aan aadi karnaa su-aasha aan qabo waaye su-aasha kale waxay tahay xildhibaan maxamed cabdi yuusuf marna ahaa ra-iisul wasaarihii hore waa u mahadcelinayaa qodob uu ka dhawaajiyey ayaa jirta aniga shabeellaha hoose
ayaa gudoomiye ku-xigeenka ah xaqiiqatan arrinta beledoogle iyo gobolkaasi iyo gobolada kale oo dalka qeybo ka mid ah waxaa ka socdo wax badan oo shacabka haddii lala wadaago oo waxaa weeyaan oo maaragtay aad maaragtay aan u raalgelinayn shacabka maxaa la yidhaahdaa qodob oo xogaar waxaa jirta oo ra-iisul wasaarahaygii xogaar maaragtay ku dhaliishanahayo 1949 markuu soo qaaday aniga oday xogaar kastoo gobernatoor iska noqon jira dhalayo siyaasadda xogaar kama marneen anoo yarna wax badan waa dhegeysan jiray waa wax meelahana waa ka fiiriya marka arinta 49kii xogaar waa la isku khilaafsan yahay laga yaabo ra'yigiis inuu cabiray raalina ahaada marka waa mahadsantiin dad badan maadaama iga dambeyn intaas kusoo ha kii oo dadka minority-ga ahoo pro italianka macnaha waxaa jirtay qadiyad ama qiso dheer oo silsilad ahoo mar kale laga kuley wariyahan ka codsan in hadday suuragal tahay inuu noo sameeyo silsiladaasoo ahayd halgankii soo socday oo sayidka ka qayb qaadanayay waxaa dhici karto dad badan oo halgankana raalli ka ahaa oo sayidka laakiin ra'yi ahaan wax kaga duwanaa in la dhihi jiray waa xujoodeen in la dhihi jiray waa soo socotay maya halgama kala duwanaa dhici jiray qof kastoo halgankaasi dhinacna raalli kaga ah wax yarna kaga ra'yi duwan ayaa waxaa la dhihi jiray waa xujowde mar baro Itaaliya tahay mar murtada tahay mar waxaa la dhihi jiray maxaa la yiraahdaa manifesta tahay waxyaabo badan aan soo maray historical waxaan ka hadlay adeer meeshu naga soo galay kalimadii la federal fikrad Soomaaliyeed ma ahayn fidna loo dhiibay ahay dadna naga loo dhiibay ahay okay ana waqti dheereenin mudan xilibaan hal kelmadaan ku darsanaa raaliga ha mudan wariye waxaan ku darsanayaa mudan ra'iisul wasaare ama ra'iisul wasaarihii hore adoo raaliga ah maadaama federaalka aan ka warhayno wadamo badan oo adduunyada horumar badan ka sameeyay ama awood military awood dhaqaalaha ku leh inay ku dhaqmaan macnaha annaga xumayna ma dhihi karnaa federaalku oo habkii saxda ahaa haddaan u dhaqmi lahayn nafkarteeda oo federaalka ahaa macnaha waxbaa noo toosi lahaa ma la dhihi karaa waana mahadsantahay su-aalaha hal mar aan aruurinayna haye ninkaa odagaa dambaay su-aashaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore to TV-ga Universal TV iyo saaxiibkeen Cawil xildhibaanada sharafta leh ee rugcadaaga ah maanta aan dhihi karo nasiibeen aniga magacaygu waa Cumar Aadan Rooble waxaan ahay gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed runtii caawa dareenkayga lama soo koobi karo markii aan dhageystay xildhibaanada qaranka waxyaabaha ay ka hadlayaan iyo waxa maskaxdanada ku jira aad ay u kala duwan yihiin waxaan rabaa inaan xildhibaanada weydiiyo dowrka xildhibaanada ay ku yeelan karaan in wadanka uu maxmiyad galo ayagoo xildhibaanada qaranka ahaa 3 sano la soo dhaafay ka horna laga yaabo inay xildhibaanadii ku horeeyay ku jireen in maanta la yiraahdo wadanka wuxuu ku jiraa gumaysi uu ku jiraa maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan wali waxaan rabaa inaan ku darsado wali ma maqal mooshin laga keenay beesha caalamka oo ay ka keeneen xildhibaanada maantayna waxa cad in la eedeynayo beesha caalamka oo la leeyahay beesha caalamka waxay sameysay wadankan waxay ku haysataa wuxuu ku haysato maxay xildhibaanadu meesha madaxweynaha ka keeneen madaxweynaha meesha laga xukumay oo sheegayaan maxay uga keeni waayeen mooshin su'aashaas aad u maasanta waa wadaynaa su'aalaha haye su'aasha si dad badan fursad u helaan qof kasta hal su'aal haye bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa salaamaya madaxda sharafta leh ka soo qaybgalayaasha caawa marka imaanay waxaan filayay inaan qaranka Soomaaliya uu imaanayo laakiin waxa iga caddaatay inaan meesha xildhibaan fadhin marka iga raali noqdaan Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Xaashi kaas xildhibaanku magacaabay iga afkooda ka sheegay waxaan rabaa 275 xildhibaan iyo madaxweynaha iyo 63 wasiir oo ku dhow Soomaali dhihi kara inay yihiin qaacin wadan maadaama 3 sano ay dalka haayeen ay waxba ka qawaayeen waxaan ku magacaabi karnaa inay yihiin qaacin wadan maxkamadna la soo saari karo laga bilaabo caawo ma dhihi doono inuu xildhibaan meel joogo ama wasiir haddaan aragno wasiir waay because maxaa yeelay waxaan ka bilaaweynaa caawo laga bilaabo haddaan nahay dhalinyaradii jiilkii sugayay aniga Soomaaliya ku dhashtay weligeyna ma ugu bixin ilaa heer jaamacadna ku dhameeyay waxaan sugayay inaan dalkaygii oo nabad noqdo caawna waxaa la cadeeyay inaysan nabad ay gumaysi oo jiro laakiin caaw wixii ka bilaawday waxaan xisaabtamaynaa 275 xildhibaan iyo golaha wasiir
wasiirada marka waana mahadsantihiin soo ma la dhihi karo su-aasha aan qabo waxay tahay waddan inaad tihiin inaad cadaysatiin aan jeclaan lahay waana mahadsantihiin aada mahadsantahay haye su-aashaada bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan 3 su-aalood weydiiyo hal su-aal kaliya si saaxiibadaada kale uga faa'iidaystaan okay su-aasha ku muhiimsan okay waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf iyo xildhibaan cabdi xaashi waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah dalka waxay sheegeen inuu gumaysi ku jiro say sheegeenna uu sheegay cabdi yuusuf wuxuu yidhi maxamed yuusuf waxaan la soo dagaalanay gumaystii hore dadku markaas waxay ka midaysnaayeen gumaysi ama ujeeda mustacmir mid ah ay wada lahaayeen hadda ma la dhihi karaa maadaama oo dalkii maaragtay oo ama dad badan oo muwaadi grubyo badan oo muwaadi fara badan haysta sida sunna wal jamaaca oo kaleeto shabaab oo kaleeto dam jadiid oo kaleeto ama maaragtay qolyahan kaleeto ay sheegaya international community-ga iyo meelo aysan geli karin oo iyaga maaragtay oo dalka inuu mustacmar ku jiro mustacmarkee la dirnaa marka waxay noo sheegeen in maaragtay mustacmar la dirirayo uu jiro oo dadkuna dhallinyaradana ay howlgelinayaan hadda saacadan wixii ka dambeeyo kee la dirnaa marka kaasaan weydii lahaa aada umahadsan tahay haye su-aashaada bismillahi raxmaani raxiim marka horeyso ilaaha mahad iska leh marka labaad waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee kasoo qayb gala barnaamijkan iyo cabel daahir magacaygu waa yaasiin deeli cali shire waxaan ka socdaa midooda dhallinyarada iyo horumarinta waxbarashada iyo hiigsi sidaan ogsoonahay mar walba oo mooshinka aniga hadda uma arkay inay lid tahay mooshinka waxaan arkaa xal waxaan ogsoonahay xildhibaanada marar qaar in dhibaatooyin inay ra-iisul wasaare ka keenaan mooshin madaxweyne ka keenaan marka maxaa diiday in ay mooshin ka keenaan ciidamada ay sheegeen in si sharci dara ah wadankeena ay ku joogaan haddana isla markaa ayagoo sheegaya inay dad gooniya beegsanayaan shacabkeena laayo maxaa diiday in ay 24 saac ay mooshin kuwaas ay ka keenaan anagoo og ciidamada ajnabiga ee wadanka ku sugan in 24 saac wadanka ka geystaan dhibaatooyin tiro badan dad badan laayaan askarta qaar dilaan maxaa diiday marka xildhibaanada inaad ka keentaan mooshin aada u mahadsantahay waa su-aal su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xildhibaanada iyo cabdul daahir salaad iyo universal t v magacaygu waa cabdifataax maxamed cabdikariin gabayre gudoomiyaha midooda dhallinyarada iyo horumarinta waxbarashada hiigsi anigoo ka ambaqaadayo su-aalihii hore iyo hadaladii iga horeeyay anigoo ka ambaqaadayo xildhibaanada waxaan rabaa su-aalo yar inaan weydiiyo hal su-aal sida aad noo sheegteen dhallinyaradii waxaa la dhahay magacaa loo bixiyey hala dagaalamaa laleeyahay hala dagaalamada naftirkeedu macno badanay sameynaysaa ee yeelanaysaa aniga ahaan dhallinyaradii magacaa loo bixiyey dad baa la raacsiiyey oo la daba dhigay oo la dhahay dhallinyaro meeshii lagu arko dhinac ha loo bixiyo idinkuna sida aad leedihiin waagii hore waa dagaalami jirnaa dhahdeen annagana waxyaabo badan oo noo diidaya jiro inaan hadda dagaalanno xilligan su-aasha aan weydiinaya waxay tahay arrimaha federaalka marka aan ka hadalno fursadi ma jirtaa looga hortegi karo federaalkii la sameeyey lagu baabi'in karo lagu soo celin karo soomaalinimadii lagu midayn karo arrimo soomaaliya oo dhan aada umahadsantahay gabadha arsiinanahay haye su-aashaada haye bismillahi raxmaan raxiim horta waa idin salaamaa dhammaan waxa waaye su-aasha aan qabo haye su-aasha aan qabo waxay tahay horta waxaa noo caddayseen in waqti uusan noo harin waxaa noo caddayseen in aan gumaysi ku jirno waxaa noo caddayseen in idinka dhexdiina golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha aadan lahayn wada shaqayn waqti nooma dhinna laba mid maanta idinka suurtooda golaha baarlamaanka haddaad tihiin in aad tiraahdaan ku dhawaaqdaan iclaamisaan in soomaaliya ay iska xorayso cadowga haysta maanta aad dhahdaan soomaaliya xor ma ihidiine isxoreeya iyo in aad wada shaqaysaan aad naga ballan qaadaan inaad wada shaqaysaan dalka si aan dib ugu wada xoreyno annaga iyo idinka waa mahadsantihiin aadaa mahadsan tahay
سؤال هذا شيخ بسم الله أنا أقول مرة أقصينا يا أنا كأوضاع هي بسم سؤال الله. هذا سؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم marka hore dhamaantiin waa salaamantiin xildhibaanada salaamaya aan ma oran karo xildhibaan matiin awil ma salaamaya TV-ga Universal waa mahadsan barnaamijka qiimaha badan magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo kuma cadhir Cukaas waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal oo kaliya oo yara gaaban sababtoo ah waqtigu waa gabaabs runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in caaw halkan laga cadeeyay in Soomaalidu ay weli aysan haysan dawlad sax ah aysan inaha ahayn maanta dal xor ah waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanada Soomaaliyeed Soomaaliya maanta xukumayo weli waxa waa qabyo weli ma ansixin mana sameyn inaha qaado weli in dawladdan hadda xashiq madaxweynaha ka yahay ee dhaceyso marka lama oran karo 3 sano la soo dhaafo oo adinka aad aheedeen baarlamaanka Soomaaliya inaad ka gaabiseen dastuurka inaad meel marisaan هذا ما صدق هي سؤال شو قلت بيساي بسم الله ودكتور دكتور عمر عبد الرحمن علي دوركي وحواي برلمانكي عافمادك إنا كلا حريرو حوجا بروفيشن آن مان إنا سياسة كادلو لكن قضب مهم وكذا وجاجرو مدن عبد حاشي أو أفرتني سجالة قضبات تربدنا وصاشعي قضبات سوحانو سمي نوروي وحاجرو وحدا هذا وسترن كانتريز وهذا كبتكا iyo dawladaha gobolka sida Ethiopia miyaysan ka midaysnayn inay Soomaaliya horumar gaarto tusaale ahaan Norway waxay ka qayb qaadatay dib u dhiska qodista xeerarka hadda soo qaadanayso dastuurka Ethiopia waxay maamulo dawladda iyo Soomaaliya raali ka ahayn shacabka ay dhisaysaa taas qodobka labaad mudan madax labadiina xildhibaan waxaan idin sheegayaa waddankeena wuxuu u baahan yahay balaad banki u baahan yahay kama jirto qofkii dhaawacmo meesha isaga ku dhintaa qof walba waxaa lagu leeyahay wasaaradda caafimaadka wax ay ka qabata male haddii aa wax u geysin waxaa lagu leeyahay lacag keen aa lagu siixayaa waxaa u baahanaa waddankan kumeysi Soomaali dhiig waxa walbay u qabataa anaka waxaanan ummadda Soomaaliya dhalinyarada baanaanay waxaa u baahanaa anaka balaad donation aniga kuma eedeynayo wasaaradda dadka jooga hadda kuma eedeynayo qof walba dadkii hor kuma eedeynayo waxaan ku eedeynayaa madaxweyne waxaan ku eedeynayaa dadka dhulka xaaqata ma aha wadaniyaal waxay fiirsanayaan danahooda gaarka midda kale xafiis haddii lagu magacaabo xildhibaanadiina tusaale ahaan waxaa soo shaqo tegaysiin saddexda waddadu waa naga helatiin أنا كوحب أنا مدحونا أو ضد الحرنين وحب أنا وسير دقع ديجانين وحب أنا سفارة عن تيجي كرنا وحب أنا وحان أب أنا هاي وحول بابا أنا أنا كا وحنا أنا دلنتي سومالية هدي أنا خلق هذا وحتى شبابنا اللي هي بدأ مكرنا حفيزين الدولة ده وحلو لي هدي أنا أقول نادي استربا ومتدوعي وحلو لي شبق الله الضرر كان وافن تام لنا ومدنا الصومالي ده dhinac walba u shaqeyso waxay u baahan tahay dhinac in laga dhiso anaka waxa u baahanaa in dib xurayn waxa u baahanaa dhinac walba aragtida sheegayso inaan tigi kan xalana way jirtaa Soomaaliya waxa loo kala saaraa Faransiis Jarmal Talyaani loo kala saaraa xerooyinkaas anaka waxa u baahanaa mar walba in Soomaaliya garb istaagto Awil Daahir Salaad oo maasay TV Universal mar walba laakiin qodobka ugu dambeeya Soomaaliya waxay u baahan tahay blood donation waxaan dhalinyaro isku tagtay waxaan ka codsanaynaa TV Universal inay nagala qayb qaato waxaan tagaynaa jaamacadaha waxaan tagaynaa meel walba sidii loo hiigsan lahaa tusaale ahaan hadda waxaa jira proposalkii oo lagu sameyn lahaa waxaa lagu qoray $30,000 oo aan saxiixayna dawladda jiro inuu uga qayb qaato waxaan jeclaan lahayn waan soo gabagabayn lahaa intaas aada u mahadsan tahay سؤاله حرمة لنا واسكو هذا متى هي السلام عليكم وحام لنا إن university أزمات عاو ضد وذاك عن اسكو صو وذا قيب قالنا إن صفي عن الإسكاك درجي وانكم هاد سنتين تي في university لوضح اللي بانو عاو كسو قيب قشي أنا أسلو ذا تاجن هاي وحقيقة السؤال
turkiga waddankan turki ma lahan soomaaliya iska leh horay waddankan waana la dayactiri jiray guryaheenna xafiisyada waa la dhisi jiray isbitaalada waa la dhisi jiray iskoolada waa la dhisi jiray magaca dowladeedna laguma magacaabi jirin magac ee dowladda u baxsatay lagu magacaabi jiray turkiya meel walba ee dayactirta oo hore u dhisneed inay magac turki la kor saaro yaa lagu qasbay taasa iga su'aal ah aada umaasita بسم الله الرحمن الرحيم مركله waxaan salaamayaa xildhibaanada iyo universal awl daahir saddex su'aalood aan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanada horta kow ciidamada ajnabiga ah ee dalkan jooga iyo dadka ajnabiga ah ee dalka jooga ma tira kooban yihiin oo ma la yaqaanaa tirada guud ee dalkan joogta waa qodobka labaad baarlamaanku maxaa uga qorshaysan ciidamada ajnabi xilligay bixi lahaayeen waqti yar baa ka dhiman waqtigii ay awalba loo qabtay maxaa uga qorshaysan baarlamaanka ciidamadan dalka inay ka baxaan maxaa uga qorshaysan oo uga diyaarsan waa labo qodobka saddexaad xisbiyada nidaamka xasaabta baarlamaanka maxaa uga qorshaysan in nidaamka xasaabta in la hirgeliyo oo la soo gudbiyo baarlamaanku uu gudbiyo xukuumaddu ku soo noqoyo madaxweyne بعدما dalkuba oo marxaladan ku jiro xisbiyadii nidaamka xisbiyada baarlamaanka maxaa uga qorshaysan oo uga diyaarsan oo dalkan ma loo dhameystiray in xisbiye ay ka hana qaadaan oo xisbiyadii ma la sharciyo dastuurkii ma la waafajiyay qodobka saddexaad qodobka afaraad gabadhaas ay iga qaadatay dalkaani nidaam buu leeyahay magac kastoo jiray magac la yaqaan oo ahay maxaa magacyo kale u bixiyay hantidii qaranka oo magacyadii loo yaqiin bedelay oo magacyo kale u bixiyay aada u maasantahay dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka caawa nagala soo qayb galay waxaan u maleynayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed in dadkii Soomaaliyeed meeshay joogi jireen inaanay joogin oo la xisaabtanka iyo xaqiiqada runta ah in dadka Soomaaliyeed ogaadaan la socdaan dalkooda بريو هو ردك الصومالية حافظه ذي جوج جرين حسابتن accountability ملهين ما أنت والله ما هاد علنا يا ذك الصومالية إن أي هو ذي دلك هذا حسابتن كود بنان كلا تاجيها لما سؤالها أي سوجي ذين وحيوبنا ينسيد دلك الصومالي وحلو قبلها وحن عطسنا يا سؤالها صورنا أديك ودول مرايا إن أمرك هركوب بالله محمد عبد يوسف حلوان وعيلتها هذا الهري أو ليه الحمجر حقيقة مركز ربطان صومالي حر معها ودي شيء جاي داد أمسنتي أنا حرنا منهين وحن شيء الحل يبعنا واشيء مدحوينا واشيء برايم مستر واشيء وزير واشيء لكن رون معها وحوي دلكن استعمار يشيء يعدويني ترديش أيو قعنت وجرا أيو قعنت وجرا وحنا لقى فائدة سنة هي وحوي kala qaybsanaanteena iyo dareen la'aanteena iyo wadanida xumadeena baa laga faa'iideysanaya waxa weeye marka wax allaale waxa laga hadlayo dhan waxa keeni kara dawlad Soomaaliya wadaniga keeni karta oo qarannimadii iyo midnimada ummadda Soomaaliya doonaysa baa keeni karta barlamaan wadani ah oo wadanka u dhimanaya keeni kara hoggaan fiican oo mataqaana leadership hoggaan fiican dalka ku hogaamiyo wadanadii wanaag ayaa keeni kara waxaan ognahay anagu waxa leeynin weyn iyo umulistaysay wax og yihiin uma sheegaan haddaan caaw waxaan anagu aan ognahay harga qaarkood sameeyaan aan idiin sheegno waad yaabaysaan laakiin ma rabno anaga public oo ciyaar qaarkood aynu u sheegno waxa weeye hadda ayaan dhaxaasa golaha shacbiga waxa la keenay oo hanti dhowraha guud keenay 32 milyan oo dollar oo xisaabteedii meel ka baxday aan la garan waxaan u yeernay wasiirkii maaliyadda iyo xisaabihii guud baan u yeer waxaanu niri sheega lacagtan meesha ku baxday filim baan loo daararab 16 milyan intaas waxay ku baxeen ciidankuna 6 bilood 5 bilood mushaar ma qaadan kow waxa li 3 milyan iyo 700 kun sahay safar bay ku baxeen bal ilaah baan ku dhahay 3 milyan iyo 400 milyan oo dollar baa sahay safar ku baxday safar loo qaatay
what is that maxay tahay nin baa baxaya caawo kale 3 baro maqnaanaya $200,000 buu qaadanaya oo 5 milyan intaas waxay ku baahayda dawladda deeq loo sii gobol inta yani waxa weeye marka waxaan nuuri dhageysta details keena marka meesha shakhsi walba oo lacagtaas isticmaalay iyo si loo isticmaalay halka ku soo qoran noo keena wali waa noo keenayaan maalmo guddi maaliyadii ayaga hadda u yarna waxaan marka ka waray aan ka hadlaynaa waxa weeye maamul xumo iyo tugnimana waa qabnaa wadanid xumana waa qabnaa dareen la'aanna waa qabnaa Soomaalida feejignaan jirtay oo digniinta qaadan jirtay oo waxa dulmiga ku socod garan jirtay ma jirto maanta waa la indha beelay waxaana inda tiri qabiil iyo danaysi taliyaan wax kuma maaha ma waxaad u nooshaa inaad wax cuntid mase waxa wax cuntaa inaad noolaatid maanta Soomaalida waxay u nooshay inaad wax cunto kaliya qof walba wuxuu lagu raadinayaa qof ka fakaraya dadka masaakiinta baabay waxoodii ma jiro nin walba inta qaato guriga ku gato dibadda geysto ka shaqeynaya ayo waxa looga baahan adinka dhalinyarada inta dagaal gashaan diraa no way ina tiraan soo istaagtaan suuq waa ina diidaan no way waa in la yiraahaa soo garmis oo shacbi laga boqol la noqda oo dhalinyarada horseed ka noqota soo ma garan laakiin markii nin xuna ka baqabiil uu idin kaxaysto reer hebel raacadaan qabiilno ku raacdaan adiga dhimanay meesh ku dhimanay ku baqtiyay war nin qabiil wax ku tari maayo qaranka wax ku taray midnimadiisa iyo sharafkiisa wax ku taray qaran fiican marka heshid qof micnaheed noqonaysa dalka xuquuqda diyaalanaysa qof jiraad noqonaysa sidaa daraadeed waxa weeye wax laga hadlayo dhan dawlad fiican oo qarannimo Soomaaliya wada keeni karta baarlamaanku waa xunnahay anagu xukuumaddu waa xuntahay madaxtooyadu waa xuntahay kulli waa xunnahay danistayaal baana kulli ma faanayno anagu iska kaay dhiciy aan ka baqnay aad ma satahay xildhibaan ay cabdi waxaan filayaa maxamed baa dhameeyey laakiin afar su'aalood oo labadiinu aad sheegteen waxa weeye tii arrinta axsaabta baarlamaanku sharcigaa wuu diyaariyey marka maadaama ay keeni weyday xukuumaddu baarlamaanku intuu diyaariyey ayuu xukuumaddii u celiyey kolkaa weli xukuumadda haysaa kaas arrintan yani turkiya yani inay hosbitaalkii iyo meeshay samaysaba ay magacii beddesho waa arrin aan filayo inaguna in laynaga helay weliba waxaan filayaa digfer oo kale ya hosbitaalkii digfer heshiisku wuxuu ahaa hadda lacag baa laga dhigay anigu hadda sidaan maqlayo hadda waxay ahayd inay noqdo hosbitaal dadweynaha lagu daaweeyo oon lacagayn waa heshiisku siduu ahaa laakiin hadda lacag baa laga dhigay baa laleeyahay arrimahani kolkaasi waa arrimo u baahan in dib loo noqdo ninkaa dhallinyarada ah donationka dhiigga waa muhiim wey aniguna kolley diyaar baan u ahay inaan dooneed garay inaan dhiig aan bixiyo diyaar baan u ahay kolkaa meeshii lagu bixinay dhalinyaro waxaan filayaa ya ha sorry xogtii ciidamada waa muhiim waa sax wey ma ogin tirada joogtaa intay tahay ma ogin muddada ay joogayaan ma ogin qaabka ay u shaqeeyaan been idin sheegi mayno ya yani waxa weeye way joogaan yani baarlamaanka xukuumaddu arrimaha inay keento baarlamaanka lama keenin waxaan maqlaa security councilka ayaa u kordhiyey iyo igadoo intaa iyadu maamusha ayaan maqalaa kolkaa waxa weeye annaga haddii waxaan idin nidhi waa layna haystaa wallaahi wayga dhab cidna haysatoo toosa haddaan ogaan lahayn waxba ma naqaana ciddayna haysataa halkaasaa laga buuxaa xalane ciidanku ma aha ka madow ka caddaankay joogaa caddad male
ma naqaano ya ha beledogla waa degan yihin maraykan baa halkaa degan ha maraykankaa degan ya kolka ha هذا مايا هاي واد ما زنتي واد ما زنتي يا هاي أصدقائنا أصدقائنا هاي أرنت أحسابت وحوي وح هذا لو بدل كرا وحرس وجري حسبي ذا قوي وحد شرتا أنه رقم بان دولة بان سوى هنجر أحساب لحظة سجالك سديتني سديت حسبات دور شكل غبش سديتني سديت حسبي وياه سديتني سديت شيء قبيل بهاي مرك صد حسبي لقى واحد برنامج لبا وكرسي الأول هذه اللي هاي حدا بقول حسبات ذلك كفر وصد حفر قفوض به حسبي وضعته marka condition adag in loo sameeyo xisaabta weey oo la yareeyo oo dadka meel lagu wada shubo si aan loo chance loo sin xisaab qabaa'il in abuuranto soo garmis xisaab qabaa'il in abuurto inaan ka hortagno waxa rabnaa maximally 3 xisbi in laga dhigo oo marka la yahay dalka oo dhan degmo walba xisbi walba iska sii diiwaan geliyo inta qofoodu kuleeyahay xisbiga la soo cadeeyo 3 xisbi ugu dadka badan in la qaato marka وبروبوس سعودة هدي اللي يا لكن نقول بحسب هكذا كل حسب إيمان أي إيمان قبيل كي وحسب يكون إيماني سو كلمس هذا ما سنتهاي حلوان محمد عبد يوسف لما ندك كسر قريب قلي وأم هاد علينا حلوان محمد عبد يوسف حلوان عبد حاشي وكم ذا حلوان هذا برلمان كصوماليات إسلام مركانا ضد رقعداء أو سياسات أو مدو kasoo shaqeynayay siyaasadda waddanka Soomaaliya mahad gaar ah aanu celinaynaa sidii habsamida lahayd oo cadaanka ahayd oo dadka Soomaaliyeed ay warbixinta xaaladda siyaasadda u siiyeen waa uga mahad celinaa dhammaan dadka ka soo qayb galay sidaas oo kale waa u mahad celinaa dadkiina daawanayay ee dunida dacaladeeda naga daawanayeen sidaas oo kale iyaguna waa u mahad celinaynaa barnaamijkaygii caawa intaas ayaanu ku soo gabagabeynaa bas dadka Soomaaliyeed ee na daawanaya waxaan u ballan qaadaynaa محمد عبد يوسف iyo xildhibaan Cabdi Xaashi oo labaduba kamid ah baarlamaanka Soomaaliya barnaamijyada noocan oo kala waa si wada doonaa habeena kale aan ka codsan doonaa in barnaamijyada nagala soo qaybgalaan anagoo qodobo kale oo muhiim ah ku eegi doona barnaamijyadeeda soo socda tan intaanu dib u kulmi doona barnaamijkan barnaamij lamida waa Caawil Daahir Nabadino